soo dhawaada dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka Baraarug Book Talk editionkiisa bisha June. Waxaa maanta barnaamijka martiin oo ah Nasra Cali Nuux oo nala qaalan dhig doonta buug magaciisu yahay Feminism for Everybody. Intaan barnaamijka u gudagelin waxaan jeclahay inaan barnaamijka kusoo dhaweeyo agaasimaha barnaamij Baraarug Book Talk oo inala joogta Nawaal Axmed oo laafka ah from Garowe. Nawaal soo dhawow barnaamijka inoo fur kadib aan gudagelinaa insha Allah. aad iyo aad u mahadsantahay Xukaashe. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa martida caawa inoo xisman oo ah Nasra. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa shakhsi walba oo waqtigiisa soo siiyey si uu uga qayb galo soo jeedinta buuggan. Barnaamijka Baraarug Book Talk waa qayb ka mid ah Baraarug Library oo ah in la gorfeeyo buugaagta, maadaama Baraarug Library ay tahay kaydka haysta buugaag aad u fara badan. Haddaba waxa uu barnaamijkana qayb ka noqonayaa in uu si toos ah loo falanqeeyo hadba buuggii loo arko markaas inuu muhiimadiisa gaarka leeyahay. saas darteed caawa waxaa inoo casiman mahadaha ka gaartay walaal Nasra oo inoo qaadan dhigi doonta buugga ah Feminism for Everybody. sidaas darteed waxaan rajeynayaa in marka hore waxaa barnaamijka uu qaadanaysa soo jeedintiisa Nasra, sidoo kalena su'aalaha la weydiin doona. Barnaamijkani wuu dhici jiray laakiin wuxuu u dhici jiray isaga oo ah kafool maadaama coronavirus uu yimid waxaa la isla gartay barnaamijkii inaanu ka qabanno bartan Zoom-ka live-na aan ka galno Facebook-ga. Mahadsantahay Xukaash. aad u mahadsantahay walaal Nawaal. waxaan jeclahay inaan barnaamijka toos u guda galno. saa idin sheeg buugga barnaamijka bishan inoo saara miiska waxaa la Feminism is for Everybody, passionate about politics ee qortay Bell Hooks oo qoraa madow Afrikaan ah, madow Black American oo hadda professor ka jaamacadda City University of New York. waxaa barnaamijka noo soo jeedi doonta Nasra Cali Nuux. Nasra waa dhakhtarad hadda ku sugan magaalada Ankara ee dalka Turkiga. waxay waxbarashada kusoo qaadatay jaamacadda Hargeysa ee Somaliland iyo dalka Turkiga. takhasuskeedu waa arrimaha biochemistry, nutrition iyo maamulka arrimaha caafimaadka. Nasra waxay aad u xiiseysaa qoraalka dhaqanka Soomaalida. sidoo kale waxay u doodaa arrimaha xuquuqda insaanka gaar ahaan xuquuqda dumarka. bishan Nasra waxay marti ku tahay barnaamijka Baraarug Book Talk. iyada hadda kusoo dhaweeyaa Nasra, walaal soo dhawow. dabcan waxaan rajeynayaa in wax badan ka faa'iidi doono oo ku saabsan buugga. intaanaan bilaabin waxaan jeclahay inaan laba ogeysiis oo kooban u sheego kasoo qaybgalayaasha barnaamijka. dabcan waxaad qabi doontaan su'aalo ama soo jeedino ku saabsan mawduuca. su'aaluhuna waxaa la furi doonaa waqti baa jira oo la furi doonaa question answer session ah oo qeybaha dambe barnaamijka ah. sidoo kale qofkii raba inuu wax soo jeediyo si qoraal nagu soo qori karaa. marka intuu barnaamij socdo waxaan ka codsanayaa inaad iska xirtaan microphoneska iyo kaamirooyinka si barnaamijka waqti badan u gelin. aad u mahadsantihiin. Nasra soo dhawow. waa mahadsantahay walaalo, waan dhawahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaantiin waxaan filayaa dhammaantiin video wanaagsan baan idin leeyahay. waxaan filayaa inaad nabad qabtaan oo meel kastoo joogtaan baad caafimaad aad ku caweynaysaan. siduu Xukaasha sheegay magacaygu waa Nasra Cali Nuux, inkastoonan dhakhtar ahayn laakiin aan ahay good doctor. dhakhtarada kala duwan, dhakhtar cuntada ayaan ahay laakiin dhakhtar oo dhankan kale aanan ahayn. maanta waxaan ka wada hadli doonaa oo aynu qaadaa dhigi doonaa buugga ay qortay Bell Hooks oo magaciisa la yidhahdo Feminism for Everybody. waxaanu isla eegi doonaa Bella buuggeeda maxay damacday inay dadka ugu sheegto. waa la maqlayaa soo maaha? aad iyo aad ku maqalnaa. maxay message-ka ay dadka u gudbinayso ama fariinta ay rabtay inay buuggeeda ay nagula falanqayso ay ummadda inay u gudbiso ay doonaysaa maxay tahay. taas baa waxaan doonayaa inaan qaab yar oo kooban aan u soo gudbino oo aanu halkan idinkala qayb qaato.
xogaa slides yar baan hayaa marka waxaan rabaa inaan screenka idinkula wadaago miyaad arkaysaan muuqaalada أنا سرعي وأنا أخذنا si wanaagsan Pella waxay isku dayaysaa inay qeexdo feminismku muxuu yahay muxuusan aanu ahayn marka hore waxay doonaysaa inay falanqayso dadka feminismka ka hadla xagee ka helan xogta ay gudbiyaan waxay odhanaysaa feminismka badanaa dadka macneeya amba turjuma waxay xogta kasoo qaataan qaab kutirikuteen ah laakiin basically waxay hilmaamsan yihiin definitionka amba qeexitaanka dhabta ee feminismka iyadu waxay ku qeexday inaanu ahayn dhaqdhaqaaq amba movement amba maxaan ku dhahday howlgal ka dhan ah ninka oo anti male movement inaanu ahayn bal uu yahay amba uu yahay xarako amba dhaqdhaqaaq ka dhan ah kala sarreynta jinsiga in la yiraahdo oo xuquuq kasta lagu saleeyo kala sarreyn jinsiyeed taa markaan leeyahay macnaheedu waxay iyadu kasoo horjeedaa sexismka waxa la yiraahdo oo marka Soomaali lagu macneeyo noqon karta kala sarreyn xagga jinsiga ah waxay ku qeexday feminismku inuu yahay oo xarakaad in qof daciifnimadiisa amba awood darradiisa looga faa'iideysto iyadoo maxaa ku dhahday ay yani dhinaca kale sarreyn amba domination uu tiigsanayo waxay qeexday inuu yahay maxaan ku dhahday kala sarreyn ku salaysan jinsiga oo jinsiga labeed iyo jinsiga dhadigeed kala sarreyn ku salaysan weliba taas oo lagu beesgaraynayo nolol maalmeedkii caadiga ahaa ha ahaato cadaaladii ha ahaato paymentkii wixii shaqada laga qaadanayay ha ahaato maxaan ku dhahday kala sarreyn ku salaysan nolol maalmeedka caadiga ah bay isku dayda inuu yahay in ay ku macnayso أسرعي ولا الله سلايد شوقة كدك سيدا في دلبانيان okay one minute okay بس هذا absolutely مثلا إنك هو فضيها waxay sheegtay inaanu ahayn la dagaalanka labeed amba kasoo horjeedida ragga ee uu yahay in bulshada laga saaro in maxaan ku dhahday lagu kala sareeyo maxaan ku dhahdaa jinsiyan waxa kale qeexda in dadka xataa advocacy-ga amba ololaynta u sameeya feminismka qaarkood aanay kaba warqabin amba ay hilmaamsan yihiin inay hilmaamsan yihiin inay hilmaamsan yihiin problemku inaanu ahayn in movementku inuu anti male yahay bal ay hilmaamsan yihiin problemku inuu yahay sexismka iyagoo aan sexismka isku dayaynin inay soo afjaraan amba ay soo gabagabeeyaan waxa kale qeexaysaa waxa la yidhahdo patriarchal system kaas oo ah system amba social system oo dominationka qayb yani jinsi uu leeyahay hadeer patriarchal systemka marka la eego sarreynta waxaa le ragga oo mailka dominationka iyo maxaan ku dhahday mas-uuliyadda propertyga iyo mas-uuliyadda xataa inheritance leakageka isaga ayaa iska leh marka iyadu waxay qeexaysaa iyada oo aan genderna la duraynin iyadoo aan cidna xuquuqdeedii lagu duulaynin sidee baa loo soo afmeeri karaa amba loo soo koobi karaa amba loo soo gabagareebi karaa patriarchal basic system society-ga oo meesha looga saari karaa waxay kaloo qeexaysaa chapterkeeda labaad waxay u bixisay conscious raising in wacyiga kor loo qaado maxaan ku dhahday oo feminismku wuxuu yahay si loo ogaado inaan second hand information la helin warbixin gacanta labaad ku timiday bala la helo warbixin gacanta koobaad ku timiday dadkuna aanay resistance amba caabin la imanin iyaga oo aan waxba akhrinin amba aan waxba ogeyn so iyadu basically fariinta halkan ku diraysaa waxa weeyaan read before you resist inta aanad waxaan ka hortegin ee aanad caaska caabin ku samaynin ee aanad
waxan waa waxun amba waa waxna wanaagsan odhan horta xog ku filan ka hal oo macluumaad ku filan ka horruso waxay qeexaysaa feminismku inaanu ahayn wax lagu dhasho inaanu ahayn wax la kala dhaxlo bale uu yahay wax la barto oo la kobcin karo oo qofku ka mid noqon karo kana qayb qaadan karo halkan waxay soo qaadanaysaa haweenka in si group iskugu yimaadeen in wacyigooda kor loo qaadi jiray maxaa ku dhahdaa in aqoontooda ay isla wadaagi jireen in iyaga maadaama oo xilligaa waqtigii la joogay ay haweenku tacadiyo fara badan bulshada kala kulmayeen ay haweenku dhibaatooyin badan bulshada ka tirsanayeen conscious racingku inuu ahaa goob ay xanuunada ay dareemayaan ay iskula wadaagaan ay maxaa ku dhahdaa dhibaatooyinkiiyo dhaawacyadooda ay ugu raadsadaan xal amba ay ugu raadsadaan waxaa la yidhaahdo sixo waayo qof kula dhibaatay markuu kuu sheekaynayo way ka duwan tahay qof aan adiga waxaa dareemaysa dareemin markaad u sheekaynaysid marka hadba intii isku dhibaato ah baa dadka xal inay helaan isku daya amba inay dhibaatadooda xalinteeda u hawlgalaan isku daya conscious racingka waxa kaloo ay kusoo qaaday wax la yidhaahdo internalized sexism iyado internalized sexism waxay u bixisay cadaawad gudeed oo ka dhaxaysa haweenka waxay qeexday patriarchal systemka oo ah system kala sarreyn bulsheed uu ku jiro inaanu ku salaysnayn inay raggu ay cadaadiyaan amba ay maxaan ku dhahdaay ay tacadi ku sameeyaan haweenka bale haweenka laftooda iyagu ay iscadaadiyaan maadaama systemkan uu ku salaysan yahay system qofka awoodi liya ay tahay inuu taliyo system qofka awoodi liya ay tahay wax walba in isaga xaggiisa uu leexsado iyaga haweenka laftoodu tartan taas ay ka jirto baa dhexdooda ay ka tirsanayeen taas macnaheedu waxa weeyaan internalized sexism oo cadaawad gudeed bay soo qaaday inay jirto waxa kaloo sheegtay inay adag tahay inta dumarku aana iyagu isgarabsan aana iyagu iscafinin aana iyagu isku arkin inay caqabad isku yihiin inaan cadaawadan gudeed la xallin karin tan haddaan la xallinina inaan tii dibadda la xallin karin oo macnaha yani bulshadu inay kasoo horjeesato haweenka inay u aragto maxaan ku dhahdaayey dad aan u qalmin mise inay waxbarasho helaan inay caafimaad helaan inay maamulka ka mid noqdaan inay bulshada active ka noqdaan dad aan u qalmin maadaama oo ay iyagu tirsanayeen horta marka hore waa inay iyagu jeeda meel isla dhigaan iyagu waa inaanay caqabad isku arkin iyagu waa inayna maxaan ku dhahay mid meel gaadhi aanay ta kale ee aan meel gaadhin u arkin mid iyada challenge garaynaysaa mid iyada wixii iyadu ay heli lahayd hortaagan waxay kaloo sheegtay inaynu we should know more about the patriarchal system waa inaan wax badan oo ka ogaano patriarchal systemku muxuu yahay system sidee ku salaysan uu yahay maadaama oo iyagu revolutionary feminism sameynayeen oo ay maxaan ku dhahdaayey ay xilligaasuna ay dejinayeen aragtiyaha feminismka ha ahaato mid theoretical bay markaa u shaqaynayeen oo aqoon xataa jaamac xilliga intaa wixii ka horreeyay dee erey unbuu ahaa wax tixraacyo muu lahayn meelo laga daba raaca muu lahayn marka waxay isku dayeen horta inay systemkan wax badan oo ku saabsan ogaadaan si ay systemkana meesha uga saari karaan xalla ay u gaari karaan waxa kaloo isku dayeen inay fahmaan dominationku muxuu yahay dominationku siduu ka iman karaa qof sideeba isagoo awooddaradiisa iyo daciifnimadiisa looga faa'iidaysanayo yani waxii uu xaqu lahaa looga mararsan karaa third chapterka amba chapterka saddexaad waxay kaga hadashay point qodob ay u bixisay sisterhood is powerful yani isku tagga isgarabsiga iyo isgargaarka haweenku inuu yahay awood u baahan in la ogaado awood maxaa ku dhahdaayey ay tahay ina laga warqabo oo aanay ahayn awood ay tahay in la yaraysto haweenka laftooduna inay ku baraarugsanaadaan marka iyagu isku gargaaraan baa wixii caqabada hortaala ay soo afmeeri karaan amba ay dhinac iska dhigi karaan waxay ka hadashay markii sisterhood is powerful ereygan slogankan markii lasoo saarayay haween badan oo meelo kala duwan jooga marka basically gabadhu maraykan bay ku salaynaysaa لأن حلقة United States بيجوكتي حتى أنا معلمات بروفيسورات كتاعي هواين بدنا ها هواين كم مدرجة أو يوم مدرج كل جوت كوري ها هواين شقة لودي ذي بس دمر باتين ها هواين محنكر هدايا وحبرشة ذي أم بهواين domestic violence وحن إن إحنا أم harassment لو كل ما هاتو
kuwaas baa waxay sameeyeen inay isku imaadaan inay maxaan ku dhahdaa aqoontooda wacyigooda kor u qaadaan iyadu markaa waxay leedahay anaga isku tageeni isku imaanshaheeni isku ururkeeni baa waxaan u bixinay sisterhood is powerful yani isku taga haweenku amba walaaltinimadayna dhexdeenu waa awood oo u baahan inay siday tahay aynu uga faa'iidaysano waxa kale sheegtay is halkan oo isla intaan gudaheed markan ay ka sheekeynayso sisterhood is powerful inay wax badan iyagu ay bulshada ku challenge garayn karaan waqtigaas bulshadu iyada ayaa haweenka challenge garaynaysay oo haweenka iyadaba masalan gabadhu waa inay basically waa inay sidan u egaato waa inay dhararkeedu intan ahaado waa inay sidan ahaato waa inay intaasoo carruura ay dhasho yani bulshada baa waxay u dejisay wax ay bulshadu rabto bale aanay gabadha rabin markaas iyagu waxay ku adkaatay masalan haddii tusaale example waxyaabaha soo qaadanaysa waxaa kamid ah haddii bulshadu rabto gabadhu inay had iyo jeer gabadh dheer ahaato inay dumarkii ku qasbanaadaan inay ku shaqo tagaan gabadhaa dheer 8 saacadood aba 7 saacadood hadday shaqaynayso gabadhaa dheer inay xidhato wax dhib ah bay ku noqotay so waxay challenge gareeyeen inay shirkadaha ku qasbi karaan iyagoo tan kasoo horjeeda inay shirkaduhu soo saari karaan kaba sportsa inay soo saari karaan wax marka shaqada la joogo ay gabadhu compatibility ay ku dareemi karto yacni nafis ay ku dareemi karto iyadiina aan dhibaynin shaqadeediina ay ka qabsan karto waxa kaloo challenge gareeyeen definitionadii amba kala soocii amba isduleyntii xagga shaqada ka joogtay oo marka gabadhu ay 100 ragga la shaqeynayso keligeed kale discrimination iyo kala sooc baa meesha imanayay taas bay ay challenge gareeyeen waxa kaloo ay challenge gareeyeen example kale tusaale kaloo buuga dhexdiisa kusoo qaadanaysa isagu wuxuu dhigayaa in ardayda classka ku jirtay iyadu marka ay ka tirsanayd oo qaybta qoladii sugaantii literature politics ka dhiganaysay baa la yidhahda qof kastaaba ha soo qoro mawduuc isaga oo aan magac kusoo qorin waxa laga soo dhex saaray nuqulkii amba qormo qoraalkii loo arkayay inay tahay qormada ugu wanaagsan amba ugu quruxda badan deetana galaaskii baa la weydiiyo yaad u malaynaysaan qormadan inuu qoray ayaa la yidhahda dhammaantood waxay u gacan taageen in la yidhahda qormadan wiil baa qoray amba inan baa qoray macnaheedu waxay ka dhigan tahay biaska amba maskaxda bulshada waxa ka dhaadhacsan wax kastoo wanaagsan inuu inanku qaban karo wax kastoo wanaagsan inuu inanku la iman karo wax kastoo wanaagsan isaga xaggiisa ay tahay in loo jeeyo taas macnaheedu marka xataa contextka Soomaalida marka ku qeexayno gabadhnimada waa la isku caaya amba naagnimada waa la isku aflagaadeeyaa hebel waa naag hadaa la yiraahdo yani ragga dhexdooda kama tirsanay ka dhigan tahay marka sidaas la leeyahay qofkii naagta ahaa amba dumar ahaan maxay kula tahay in haweenku ay dareemayaan marka saa la isku caayo inkastoo marka si kale aad moodo xataa haweenku imika liidnimada lafteeda inay raalli ka yihiin oo in naagnimo la isku caayo iyagu ay u arkaanba wax normal ah laakiin basically iyadu markaas waxaasoo dhan bay la challenge gareeyeen waxay keeneen identity rape and brutality wax la yidhaahdo oo lagaga hortagayo sexual harassment ki shaqada ka dhacaysay work discrimination ki and the same time waxay isku dayeen iyagu dhexdooda inay ay abuuraan xidhiidh wanaagsan oo walaaltinimo oo ka dhexeeya oo iyagu ay isgargaarayaan kana ay hortagayaan uun hierarchical systemka amba systemkan kala sarreynta iyo qofka inuu qof liido ku salaysan sorry waxay leeyihiin sisterhood is powerful waxa kaloo ay leeyihiin inay u dagaalamaan justice-ka iyo jiritaankooda waxay kaloo leeyihiin inay baran karaan maxaan ku dhahdayay si ay healthy reproductive u helaan inay baran karaan aqoonti ku saabsanayd women sex organismka hadday gabadhu rabto inay child spacing samayso hadday rabto inay maxaan ku dhahday to know more about caafimaadkeeda inay heli karto si looga hortago maxaan ku dhahaa maternity deathka waxa kale sameeyeen halkaa markay marayeen waxay ogaadeen macluumaadkay gudbinayaan amba activitiyada iyo dadaalka ay la imanayaan inuu ku kooban yahay inta iyaga la joogta maadaama waqtiga mass media amba warbaahintu ay fikirka feminismka xoog uga soo horjeeday laano shirkado badan baa tusaale imika hadda kor waxay soo qaadanaysaa example-kii shirkadaha soo saara kabaha dhaadheer oo the daily life-ka maalin kasta loo gashanayay kuwaasoo kale waxaa ku timiday in hoos u dhicii wax soo saarkoodu hoos u dhaco rag badan baa waxay u arkeen in kaalmihii iyagu ay bulshada ka hayeen amba shaqooyinkii ay bulshada ka hayeen ay haween tartan ku galeen marka warbaahintu haweenka dumarkan feminismka way ka janjeedhay
maadaama ka janjardhayna waxay ogaadeen macluumaadka ay gudbinayaan iyo wararka ay gudbinayaan inuu macluumaad kooban yahay waxay isku dayeen inay soo saaraan xataa iyagu maadaamay dad academic ka ahaayeen maadaamay dad aqoon sare la ahaayeen waxay isku dayeen inay fahmaan inay soo saaraan book lists ama macluumaad kooban oo cid walbaaba ay ka faa'iideysan karto cid walbaabana ay fahmi karto qeexitaanka dhabta ee feminism muxuu yahay waxa fikirka u socdaan muxuu yahay xagee ka socdaana maxay tahay waxay isku dayeen inay door to door sameeyaan oo haween badan isku xid la sameeyaan iyagoo dee dabcan markaa saasoo dhan leeyahay waxaana programa dumar keliya iskama shaqaynayna rag oo dumarka caawinayna way jireen waxay isku dayeen inay waxay isku dayeen inay cultural awareness ka dhan ah domestic violence ka sameeyaan yani wacyiga bulsheed culture uu hogaaminayo oo in xagga cultureka la isku dayo ina laga cidhib tiri karo arrimaha haweenka ka dhanka ah xagga cultureka ina cadaadis badan lagu saaro bulshadu waxaan ay u aragto inuu waxan yahay bal aanaanu ahayn dhinac kale u leexiyaan primitivekii wax lagu qiimeyn jiray amba yani miqyaaskii bulshada ay wax iyo muraadihii bulshada ay ku eegaysay inay isku dayaan inay ku eegaan kuwo aan kuwii ahayn inay isku dayaan in violence-ka ama tacadigu uu kasoo bilaabmayo systemkan periodic systemka ah kana uu xataa hadhow talo markuu qoyska kasoo bilaabmo uu bulshada kusii faafayo oo ay tani iyada lafteedu noqonayso caqabad intaasoo dhan markay kasoo gudubto waxay imanaysaa wax la idhahda global feminism oo ah fikirkii feminism inuu adduunka sii dhex qaado waxaa kale halkan ku qeexaysa oo sheegaysaa in iyagu ka dumarka maraykanka ahaan aanay xataa yani adduunyada kale waxay wajahaysa aanay wajahaynin ee ay masalan dumarka africa oo kale ee FGM-ka lagu sameeyo maxaan ku dhahdayay yani iyadu marka waxay leedahay annaga intaan u dagaalamayno yani 10 jeer meel ka hooseysa dumarada kale ee amba middle eastka ku nool amba jooga africa ay haystaan halkana waxay rabtaa marka inay ku qeexdo global feminism wuxuu yahay global feminism fikirada ay tahay hadhow jale inuu isaga laftiisu uu adduunka ku wajaho oo uu eego international feminism bay qeexaysaa isdhexgal bulsheed oo feminism ah wuxun bay sheegaysaa inaanu fikirka in haweenka sidii bulshada u aragto amba sida uu dhaqanku jideeyay si aan ahayn loo arki karo in dad shaqaysan kara oo maxaan ku dhahdayay bulshada wax kusoo tari kara wax tabcan kara inay yihiin ina loo arko bay rabtaa tan iyado si guud oo dee global feminism ahaan ah uga hadlaysaa waxay ka hadlaysaa women on the work waqtiga ay sheegayso haweenka dhibaatooyin badan bay kala kulmi jireen shaqada maxaan ku dhahdayay mushkilado badan baa ka haystay xataa inay shaqo helaan baa dhibaato ahayd hadday shaqo helaanna waxay shaqayn jireen waqti dheer iyagoo helaya paymentka amba lacag bixin amba mushaharka ugu yar amba ugu raqiisan marka loo eego halka ninka iyaga la shaqaynaya ee ay isku meesha ka shaqaynayaan ee isku shaqada ka shaqaynayaan uu helayo waxaa kale qeexday culture violence-ka sidii loo soo afjari lahaa maadaama periodic systemku yahay system ku salaysan tacadi waxay isku dayday systemku inaanu macnaheedu ahayn in raggu ay dumarka violence ku sameeyaan bale dumarku ay ragga violence ku sameyn karaan sidoo kale waxay isku dayday violence-kan amba tacadigun xataa inuu carruurta saameyn karo waxaa kale doonaysaa inay qeexdo system qaabkan amba habdhaqanka noocana cidda dabada haysaana inay haweenka tahay oo basically guriga marka la joogo cidda ilmaha soo barbaarinaysa cidda wax soo baraysa cidda wuxuu soo sheegaysaa waa hooyada lafteedu haddii aanay ogeyn waxani hadhow tolo inuu dadka kale amba haweenka kale saameynayana ma soo afjeermayo mana soo baaba'ayo iyadu markaa waxay leedahay waa inaynu guriga waxaan kasoo bilowno waa inaynu marka iyo haweenka wacyigooda uu kor u kaco aan haweenka dee aqoontooda iyo fahankooda aan kor u qaadno iyaga laftoodu carruurtii ahayeen inaanay carruur
badara ah oo raba qalalasaha jecel oo iska celi dil soo dhac boobta ku salaysan inaanay noqonin iyada laftoodu ay halkana ku bayaaminaysaa waxay sheegaysaa masculinity and feminismka feminismku inaanu ahayn end of the manhood yani wax ragga lagu dabargoynayo inaanu ahayn wax ragga kasoo horjeeda halkan waxay qeexaysaa waqtiyada qaar waxaa jiray dumar fikirku markuu bilaabmayo sibuu ku bilaabmaya laakiin siyaabaha u leexleexanayo inta kale ku xidhan tahay marka fikir la sheegayana qofna wuxuu ka noqon karaa dhexdhexaad qofna basically wuxuu u arki karaa wax caadiya qofna wuxuu ka noqon karaa radical at that time waxay sheegaysaa inaanu hating man aan yani nacayb la abuuraynin ninka ka dhana bale loo jeedo un in dad siman oo maxaan ku dhahdaayey iska wax ka duulaya la helo waxa kale soo qaadanaysa ay leedahay bal ka soo qaad feminismku inuu yahay iyagu markaas waqtigaas waxa lagu qeexay kuwa antima dadkii xilliga feminismka ku soo horjeeday waxay u arkayeen inay tahay feminismku gabadh cadhoonaysa oo rabta inay jinsiyad loo hesho iyadu waxay laakiin odhanaysaa feminismku maaha gabadh cadhoonaysa oo hesha oo doonaysa inay hesho jinsiyad lab mana aha xataa gabadh rabta inay ninka la mid noqoto bal waa gabadh rabta una inay hesho xuquuqda aasaasiga ee uu ninku helaya mid lamida waa gabadh doonaysa iyadoon yani cidna cid ku tacadiyaynin in la wada noolaan karo waxay odhanaysaa kasoo qaad hadday jiri lahayd adduunyo aanay cidna cid ku tacadiyaynin dadkuna ay danahooda iyagoo iskuwata wada nool yihiin qof walbaabana bulshada halka ugu habeyn uu kaga jiro uu hawshiisa ka wadayo okay so from that point buga intaasaan anigu kusoo koobaya waxyaabo badan ay ka hadashay baa jirta waxaa jira chapter ay ka hadlayso ay leedahay quruxda iyo maxaan ku dhahdayey feminismka ay leedahay body and feminism oo taasna marka waxay challenge garanaysaa bulshadu gabadha noocay u eegaato noocay tahay inay noqoto waxyaabahay tahayna laga hela inay la timaado white supremacismka yani kala sare marka dambe waxay imanaysaa in haweenkii madoobaal kuwii marka ayagu iskula meel qaadaan ee meel gaadhaan in haweenka madoobaa la liido kuwii caddaana ay sarrayn helaan iyagoo kuwan midabkooda ku faquuqaya qaybtaa lafteeday ka hadlaysaa laakiin aniga inta nuxurka ugu muhiimsan kolley ma garanay qaarkiin kolley way akhriyeen qaarkiin overview bay ka heleen nuxurka ugu muhiimsan ee ay ka hadlaysa waa intaa last minuteka marka waxaa rabaa maybe 10 daqiiqo ugu dambeeyaan ku jira haddaanan qaldanayn sax hore socoha waxay ka hadlaysaa oo ay leedahay iyadoo inta ugu muhiimsan ay sheegaysa ay ka hadlaysaa waa intaa marka aniga waxaan doonayaa last 10 daqiiqo ugu dambeeya inaan ka hadlo contextka feminismka iyo soomaalida haweenka soomaalidu maxay doonayaan maxaa naga maqan bay leeyihiin dadka haweenka soomaalida le waxba idinka ma maqna maxay marka anigu iyadoo wixii bugu koobsanayay intaasay hayd intii ugu muhiimsanayd intiina akhristo waa akhristeen intiinan akhrisana may akhrisanin so haddaynu u nimaadno inaga deegaankeena soomaali ahaan soomaalidu halkay doontaba ha joogta gabadhu markay dhalataba waxa loo arkaa xataa ayaa loo arkaaba inay ka qiimo yar tahay ninka hooyada barbaarinaysaa waxay u qaadaa dhammaantii soomaaliga wada akhrin kartaa ma filaya waxay u qaadaa ilmaha yar hees caruureed baa jira oo ilmaha yar markuu dhasho lagu loo qaado wiilka waxaa lagu idhaahdaa haddaad weyna yani haddaad gaadhood gabowdo haddaad geeliina raacdo yani haddii geelaaga la dhaco kii geela soo dhicin lahaa waa inaad noqotaa markaasaa waxaa lagu soo barbaariyaa inuu noqdo nin dagaalo diyaara nin wixiisa inuu xoog kusoo dhacsado u diyaara halka inanta la leeyahay shalay baa geel la waday rag baa goonyaha fadhiya go'doy gaagaabso hadalka yani yaan lagu maqlin oohintaada yaan la maqli waa ilmo yaro 3 bilooda waxa sidaas wax loogu sheegayaa macnaheedu waxa weeyaan dominancekii amba supremacismkii stiil halkan uu ka jiraa hablaha marka wax la siinayo wax normally dadka kale wax ka yar baa la siin jiray amba maxaa ku dhahdaayey ka xadida markaas waxa la odhan jiray inta cuntada inta yar la siiyo ilaan ina yari gigi ma deyso ilaan garabaadi ma deeqo
dhaxalka haddaynu nimaadno iyadoo xataa wixii ay xaq u lahayd ee diinta islaamku siisay lafteeda inta laga duusiya yani haddii anu aabahood nin dhalin xoolahooda la dareersan jiray haweenka soomaaliyeed waxbarasho caafimaad ogaal sarreeya iyo kalsooni nafeed labaduba way ka maqan tahay waxbarasho markaan leeyahay sanadihii hore 60kii iyo dawladdu intaana dhalan amba soomaalidu xornimada helin markaan dib ugu noqono waqtigaa cidda inantiisa iskuul geysa amba waxbarta waxaa la odhan jiray ninkii inantiisa iskuul geeyo ogow inay ibtilowday yani haddaad dad inantaadii waxbarasho la doonato dugsi ku dartay waxaad ogaataa inay xumaatay oo ay ibtilo iyo aafo kusoo horjiidayso sanadihii dambe markii dawladdii kacaanku timiday waxbaa isbedelay haweenku nolosha caadigaa bay ka qayb qaateen xataa baylooday noqdeen oo taasi waqti bay ahayd yani golden time aynu odhan karno haweenka soomaaliyeed soo maray laakiin haddana intaa ka dambeysay waxaa timiday in waxbarashada haweenka la gaabiyey in reerku haddii uu 3 inan leeyahay iyo 3 hablood uu la dabco inuu 3 inan iskuulka geeyo waayo burbur baa yimiday dhaqaale xumaa timiday qoyskii waxay awoodi waayeen inay carruurtii oo dhan dugsiga ku wada daraan inay carruurtii oo dhan waxbarashada u wada kaxeeyaan xataa meelaha qaar waxaa jirta in inanta reer loo shaqo geeyo si wax lacagta soo shaqeyso waxbarashada inanka loogu bixiyo intaasoo dhan marka laga soo tago kaba soo qaad reer inay heli karaan inay inantooda dugsiga geeyaan inay wax baran karto wixii aanu nahno shaqo gurido dhammaanteed gabadha inantay dusha ka saaran tahay subaxii way kacaysaa quraacda sii samaynaysaa iskuulkay tegaysaa way soo rawaxaysaa way samaynaysaa taas waxay keenaysaa ina yani heerkeedii waxbarasho uu hoos u dhaco waxay keenaysaa inay dugsigii cagajiid ku tagto in maalin kasta waxqabadkii ay la iman lahayd markii la iman weydo ay waxbarashadii sagsaag noqoto deetana ay ka baxdo intaa marka laga tago maadaama oo caafimaad darraba xoogan baa iyaduna jirta tusaalaan haweenka wax kale waxa usoo qaadataa inay tahay warshada wax soo saar warshadad xanuunsanaysa iyadu wax soo saarkeedu siduu noqonayaa haweenka bulshada intay ka yihiin iyo kaalintay kaga jiraanna waan garanaynaa qof dhammaanteen intayna halkan joogtana hooyaa soo barbaarisay walaalbaa soo garab istaagtay haddii hooya xanuunsanayso ilmahay dhashaana wuu xanuunsanaya ilmuhu hadduu xanuunsanayana bulshaduna way xanuunsanaysaa macnaheedu waxa weeyaan caafimaad saxa si loogu helo haweenka marka hore waa inay waxbarasho yaqaanaan waa inay caafimaad yani caafimaadkooda yani xataa hadday uur leedahay haddaanay lahayn waa inay caafimaadkeeda ogaan karto maxaan ku dhahdaayey waxyaabaha ugaarka ah oo iyada ay u baahan tahay inay nafteeda ka ogaato inay ogaan karto ogaalkeedu waa ina kor loo qaadi karo yani haween oo ka raalli ah wix mar walba dhaqanku u jideeyey un inaana la helin kalsoonida markaan ka hadlayno dhaqanka soomaalidu sanadihii hore sidan muu ahayn laakiin maanta quruxda indhagaska quruxda lagu qiimeeya waa caddaan iyo baruur waa inay inantu caddaato si ay nin qurux badan u noqoto oo bulshada magaca ku leh amba sumcad ku leh waana inay buurnaato taas macnaheedu waxay keenaysaa qolooyinkiin academicska amba businesska dhigtaa garanaya basically haweenkii sagaashamaadkii ilaa wixii u dhexeeyay dhashay jaanis uma helin ay waxbarasho ku helaan amba maxaan ku dhahdaa hadday heleena may dhammaystiranin waxay noqdeen haween guuru jooga amba aan iyagu bulshada waxba kusoo kordhin karin ilaana guursado dhaqanka bulshadu jidaysana maadaama noqday quruxdu inay caddaan tahay tani waxay keentay in haween badani ay iscaddeeyaan oo midabkoodii dooriyaan because demandka dalabka ay bulshadu dalbanaysa baa wuxuu yahay inaan cad oo buuran taas waxay keentay nin walbaaba si ay tartanka u gasho inay dawo marsato inay midabkeedii bedesho inay waqti ay wax soo saar amba bulshada waxay ku anfacdo amba nafteeda ku anfacdo kulmi lahayd ay ku lumiso midabkeeda inay bedesho waxaynu imanaynaa dadka badan oo waxyaabaha ay haweenku doonayaan daliila amba feminismka amba aragtiyahan daliila waxay dhahdaan dadkani waa dad raba inay haweenka dibadda usoo saaraan waa dad raba inay haweenku shaqeeyaan laakiin bal su-aashaan idin weydiinaya waxay tahay ma isleedahay haweenka soomaaliyeed ma shaqeeyaan ma isleedahay waddanka burburay ee aan dawladi ka jirin ee baa aaba keliya kafeyn karaa mise isleedahay reer walbaba aaba kafeeye buu haystaa 70% shaqaale hoosaadka amba shaqaalaha mushaharka hoose ku shaqeeya amba shaqaalaha iyagu ganacsada waa haween taasna bulshadu ma soo hadal qaado inteena halkan joogta laga yaaba 100 qof inaynu ku jirno inteena gudaha degan
boqolkiiba 30 boqolkiiba 50 kamid ah hooyooyinkood shaqay qabtaan waxay doonto ha ahaato waayo waxaan ognahay mushaharka aabaha uu helo amba waxa aabuhu kasbado inaan reerka ka fayn karaynin dad iska denialka amba dafiraada jecel baan nahay laakiin laga yaabo hooyooyinka qaar inaga mid hooyooyinkood aanay iibiyaan hilib bay iibiyaan suuqay tamaandho ku iibiyaan whatever shaqooyinkaasoo dhan bay ka shaqeeyaan anaga markaan leenahay in haweenka wax la baro in empowerment la sameeyo baa rabnaa macnaheedu waxa weeyaan haweenku weli iminkaba way shaqaynayaan oo dee meel ma fadhiyaan ee sidan ay u shaqaynayaan unbay waxay ka shaqaynayaan qaab kale tusaalehaan haddii 10 ina kamid hooyada ay caana iibiso 5 kamid ay hooyada neeras ahaan lahayd oo amba kalkalta caafimaad ahaan lahayd bulshada qayb kamid ay badbaadin lahayd income-ka kharashka waddanka soo gala uu sarreyn lahaa kharashka family-ga soo gala oo qoyska soo gala uu sarreyn lahaa inagana laynoma waayeen qof caafimaadkeena daryeela hadduu xanuun inagu imaado waxay lahaan iyadana nafteeda naf ahaan waxay heli lahayd waqti ay shaqada ka nasato wax oo de mushaharkeedu u socdo waxay heli lahayd xaq hadhow tole markii shaqada ka dhacaysa la siinaya laakiin hooyadaasi tamaandhada iibisa 6 subaxnimo tagtaa 6 galabnimona way saaro anigu de magaalooyinka Soomaalidu dadku weyn ka kala nimidnay waynaanu garanaynaa basically noloshu sida tahay si u socoto 6 subaxnimo baxda 6 fiidnimona way soo noqotaa inta xawubta ay iibisa mooyaane wax kale oo innovation ah amba horumarin ah oo ade ay ganacsigeeda ku sameyn kartaa ma jirto xawubtu haday xumaato macnaha waxay kharashkeedii maalinta uu degay hatta inagoo sidaas oo xawubtaas xumaanaysa baa tamaandho ka jablaynoo keena laakiin aniga waxaan leeyahay hooyooyinkan haddii wax garan lahaayeen amba ay aqoon lahaan lahaayeen amba cid taageerta ay heli lahaayeen xawubtaas xataa markay xumaanaysa qaab kale u bedeli lahaayeen caanaha la daadinayo yogurt baa loo bedeli lahaa oo caano fadhi aan muddo la isticmaali karo ayaa laga dhigi lahaa lana when you know better you do better marka wax si u garanaysid si ka fiican baad u samayn kartaa iminka hadday maalin shaqada ka fadhiisato oo maalin shaqada ka maqan tahay oo xanuunsanayso iyadaas ka maqan wixii maalinta ay iibin lahaydna uu khasaarayaa oo uu xumaanayaa so in every sector maaha un khudradda in every sector haweenku way ku jiraan xataa halkan waxaa ku aragtaa meeshan waa boorama sawirkan 2015 baan u malaynaya in la qaaday hooyooyinkaas xamaal bay ahaayeen qofka sawirka qaaday baa deetana fariinta ay la wadaagay oo markii aan sawirka helay baan weydiiyey oo aan ku uri haweenkani maxay ahaayeen deetana wuxuu ku uri waan u tagay waxaan ku uri hooyo maxamed baa la yiraahdaa inaan sawirka qaaday waxaan hooyo maxay idinku wacan inaad ku noqotaan deetana mid kamid ah intii wuxuu ku uri hooyo haddaan maalin kasta helayo abaal baan ku qabin lahaa yani maaha macnaheedu kuulinimada waan ka way dhibaysaa waan ka xanuunsanayaa maaha dib bay ugu haysaa waxay tiri xataa haddaan maalin walba heli lahaa waan maalin walba challenge u heli lahaa inaan kuuli noqdo waan noqon lahaa anu iminka ka hadlay weyaan haddii oo habluhu basically aanay sida inamada loogu dadaalin sida inamada waxbarashada aan loogu wadin iyagoo yaryar aan laga daynin mas-uuliyaddan 100% guriga la saarayo inankoodii la odhanayo farxalkiisa soo dhig farxalkiisa sii qaad اللهم صل على محمد cuntada keen اللهم صل على محمد waxaan sidan yeedhe yani bulshada waxba iska bedeli maayaan basically anigu gabadh Soomaaliyeed ahaana anigu odhanayn feminism waa wax fiican iyo wax xun waxaan aaminsanahay waxaas xuquuq inay haweenka ka maqan tahay haweenka inay ka maqan tahay inaan anigoo yar iyadoo yar inay walaalkeed la sinaan karto oo iyadoo haddii farxalka keento isaguna uu qaadi karo isaga waxba ma yeelayso iyadana wax badan bay ka khafiifinaysaa bale xataa inanka hadhow tele faa'iido u noqonaysaa oo hadduu keligii noolaado hadduu meel u baxo isaga laftiisu wuxuu manaafacadsado oo karti iyo skill uu soo bartay ayay noqonaysaa inanta yar haddaanay ka yarayn waa 5 sano waa 7 sano waxa baantiga la xoxday dubaysaa waanay ma garanay miye ganacsi bay tahay videogaas aan soo helay buu ahaa laakiin dee generally amba waa laga yaabaa meel wax lagu iibinayo suuqa inay fadhido iibinayso amba ay reerkoodiiba u dibayso laakiin generally si guud waxaan doonayaa dhahdo they deserve better waxa laga yaabaa qoyskooda inuu fikir yahay dawladda ugu tiirsado oo ilmo kasta waxbarasho free siin kartaa ma jirto laakiin inan kastaaba walaashii uu gargaari karaa qoys kastaaba walaashii uu caawin karaa iyadoon shaqada inanka loo diray mid kulli milaaban loo diraynin iyadoon
wixii iyadoo xaq lahayd laga duudsiyay quruxda ayaan hadda ka hadlaynay iyayna dumarku waqti badan ku lumiyeen inay midabkooda bedelaan tani dumarka kaliya tama dhaawacaysa bulshada dhaawacaysa ragga dhaawacaysa gabadhu markasta oo ay nafteedu waqti ku bixiso waxay raadinaysaa qof wax badan ka bixiya oo kharash badan ku guursada oo lacag badan dhaafsada basically marka muuqaalkan ila eega هذا ماشي magaalada doonaan joogaan magaalooyinka Soomaalidu degto dhamaantood waa wada sida waxaas inta kuyuga loogu jira waa dawo la isku cadeeyo looga jawaabo dalabkii bulshada ee ahaa cadaanku iyo quruxdu inay isku xidhan yihiin tani halis caafimaad bay keenaysaa halis deegaameed bay keenaysaa leena dawooyinka la marsanayo amba la isku qurxinayo dermatologically tested maaha dawooyin la ogyahay maaha حد ولا ديجان كي مشكلة كوكينا يعني ومصيبة تكلا هذا أنا بقول بيجو الموضوع أي كنتي سي جبتي سي بكتيرة وح بنيت ده قدام بيا أو عن كوسا جبيني أو حاجة هاي وأنا الوعي يا قانت هواك كرو قادنا تبلش وعي جود كرو قادة يعني وهلا لأنه بلش والله بيبدلون feminismka amba helista xuquuqda haweenkuna ma aha in rag laga soo horjeedo ma aha in rag lagu tacadiyo xataa mararka qaarkood waxay noqon kartaa iyadoo rag loo hiilinayo laana hooyo aqoon leh ninka dhashay waa wiil aqoon leh hooyo caafimaad qabta ninka dhashayna waa wiil caafimaad qaba xataa waxay noqon kartaa inaan soddon jiraba waxa laga yaabaa inay gabadhi ka sugayso inuu $100 amba lacag intaa le kusoo doono taas baa meesha ka baxaysa is iibsiga meesha ka baxaya FGM-ka amba tacadiyada jireed ee haweenka lagula kacaa meesha ka baxaysa waxaasoo dhan 70% dhaqanka ah haweenka dabada sii haya FGM-ka rag laguma eedayn karo way cid ay inanta gacanta ku haysa ee xalaalisada amba islaanta ugu yaadha waa hooyadeed laakiin iyada lafteedu waxay dulmanow tahay aqoon darro waxay dulmanow tahay jaahilnimo oo dee qofku haddii aanu waxba garanayn dembi loo qabsadaaba meesha ma yaalo so basically feminism marka la leeyahayna fikirku wuu soconayaa ma taagnaanayo uma iyo samaanba wuu leeyahay meel xun hadduu dan uu geli karaa cid walbana waxa wanaagsan contextkeeda iyo deegaankeeda inay ku qeexdo iyada oo hadba shuruucda diinta iyo wixii ay leedahay lakaas waa sida dimuqraasiga oo kale maanta Soomaalidu meel kasta joogaan dimuqraasi baa wax ku dooranaa dimuqraasi baa maxay ku samaynaa bay yiraahdaan waa fikir oo la soo gudbiyay inagu fikir ma samaysano ma fadhiisano waxaan leenahay lama soo baxno feminismkuna waa sidaas oo kale magacuna macna ma samaynayo inagu magac inagu aan la nimin baan u bixin karnaa laakiin aan ogaano haweenkeena iyo hablaheena inay gargaar u baahan yihiin feminismka haddii oo dadka qaar ay irritation ka qabaan dadka qaar magaca markay maqlaan ay u haystaan inay gaalnimo dabada kaga jirto waa laga fadhiisan karaa magaca waa la bedeli karaa laakiin what we know waxa aad oo sida cadceeda oo cad waxa weeyaan haweenku inay hiil inooga baahan yihiin my last video baan idin shidaya sorry Nasraya bayo codka kor yara oo qaad videoga miyaad arkaysaan waa aragnaa okay codku yarda kaliya haa good
siduu ninkaasi yidhi haddaynu doonayna inaynu aragno horumarka dhabta ah ee nolosha iyo bini'aadanka waa inaynu haweenka maalgashanaa waa inay haweenku aanay noqon bulshadeenu maanta waa boqolkiiba 50 aanay waxba soo saarin bulshada waxaad kasoo qaataa inay tahay shimbirta inay duusho maxaa ka caawiya waa labada baad haddii baad ka mid ahi uu xanuunsanayo baad ka mid uu jaban yahay ama baad ka mid ahi aan shaqada sidii loogu talagalay u qabanaynin baad keliyaata kuma duuli karto igaraalihada maybe waqtigii waa intii lagu talagalay waan dhaafsaday waxaan kusoo gabagabaynayaa laba baal oo isgarab duulaya ayaynu u baahannahay haweenkeenuna waa isla inagii waa isla iyagii waa hooyooyinkeen waa habarraheen maaha in cadaawad bulshad la abuurayo bale waa in iyaga loo gargaarayo si nolol tandaanta aynu ugu noolaan karno kusoo aad iyo aad umahadsantahay walaal Nasra waan ka mahadcelinayaa waqtiga qaaliga soo jeedinta qurux badneed iyo sida qurux badan leh xog ogaalimada ku dhisan aan la wadaagtay buugan qiimaha badan leh dabcan waxaad tilmaamtay dhibaatooyin badan ee la kulmaan haweenka gaar ahaan haweenka Soomaalida waxaa kaloo bidhaamisay waxay sameyn lahayn haweenka ragga halkan ku jiraba fariin cad oo qurux badan oo cilmiyeysan ayaa la wadaagtay sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan dumarka dabcan waxaa shaki ku jirin in dumarkeena ay la kulmaan dhibaatooyin dumarkeena markaa leen waxaan ka hadlaynaa gabdhaheena kuwa dhalana kuwa la dhashay kuwan qabno hooyooyinkeena ayaan ka hadlaynaa waxay la kulmaan dhibaatooyin qaarkood ma helaan fursadii waxbarasho ma helaan fursadii shaqo fursadihii qayb uga noqon lahaayeen go'aanka gaarista ama siyaasadda ku gali lahaayeen ama hoggaanka qaban lama haystaan dad badani waxay aaminsan yihiin inay dumarka ay tahay kaliya inay joogaan guryaha aysan soo dhaafin guryahooda inay soo dhaafin ay guri iska joogaan shaqooyin guri ay qabtaan ay ku ekaadaan jikada haddii si kale loo dhigo dhaqankeena Soomaalida waa dhaqan patriarchy oo ragga awood badan siinaya dumarka awoodooda hoos u dhigaya dabcan buugan dad badan markay maqlaan ama arkaan ama gaar ahaan ragga Soomaalida qaar baa ka carooday waxay dhahaan feminism waa aragti gaaleed waa aragti dadka cadaanka wataan waa aragti reer galbeedka wataan dadkaasi maxaad u sheegi lahayd sidee ugu dhadhicinaysaa in feminism kuusan ahayn wax reer galbeedka loogu talagalay ama gaalada kaliya loogu talagalay ee cid kasta oo bini'aadan loogu talagalay inay tahay waa su-aasha ugu horeysa aad iyo aad buu mahadsan qofka su-aasha ina weydiiyey sidaan hadda ka hor sheegay inagu waxaynu leenahay yani fikir aynu leenahay ma dejisano dad oo burbur iyo qalalaase isaga jiraynu nahay fikraduna 70% banaanka inooga yimaadaan markaan leeyahay masalan democracy waa fikir cid baa dejisay wadan walbana maanta wuxuu ku halgamaya inuu democratic system yeesho yani systeman sida la isku dooranaya amba sida la isku maamulaya aan ahayn mid cid u salaysan magacu macna ma samaynayo waxa macna samaynaya waxa la qabanaya muxuu yahay cidda loo qabanaya ayay tahay feminismka haddii marka adiga aad feminism maqashid oo ay kugu soo dhacdo ereygu aad u aragtid inuu yahay erey meel kale ka imiday erey inaga duulaan inagu ah okay magac wax kale aba aan u bixino laakiin waxaad ogaataa cidda loo hiilinaya waa gabadhaada waa inantaada waa walaasha xataa adigaa lagu hiilinaya oo gabadhaad qabtid hadday garanayso caafimaadkeeda si ula soconayso hadday garanayso maxaan ku dhahdayay ilmaheeda sidii u daryeelayso ilaana waa nin ku sheegay oo hadda ka hor yiraahday haweenku waa warshad waana 50% bulshada ka mid ah warshadu haddii ay xumaatana product buu macna ma samaynayo yani ma wanaagsanaanayo so waxaan leeyahay read before you resist okay fikir walba xag jirnimo u yeelan karaa wuxuu yeelan karaa dad dhinacyo kale ka eegaya wuxuu yani fikirku maaha aayado qur'aan ah oo yani aan isbedel ku imanayn waa wax soconaya hadba bulsho walibana inta iyada ka khusaysa ee nolosheeda iyo contextkeeda applicable-ka ku ah inay qaadato bay tahay marka waxaan leeyahay inaga dhibta Soomaali ahaan haysata waxa weeyaan waxba inaga oo aan eegin oo aan ogeyn ba waxaan sameynaa wax walba waxaan isku daynaa inaan hor joogsano taariikh baa jirta hadda ka hor Allah uu naxariistay Maxamed Axmed Cali ninkii la oran jiray oo aabaha tacliinta Soomaalida lagu magacaabo waa Suudaan ka yimid xilliga Ingiriiska wuxuu isku dayay Soomaalida si ay gumaystaha iska kiciyaan inuu wax baro inuu ogaalkooda kor u qaado waxay ku dhahdeen maxaad noo dhigaysaa
وحكولي لاتين ما لدن برايا معناها اللاتين يعني لاتين قابك اللاتين كي وحلو قرأ اوكي بيرهدين ويكتيجين معناها اللاتين كي وحو فسرتين لا دين يعني لا دين بالك بري دين كان idinka saaraya waxay bilaabeen inay dhagaxyeeyaan maxamuud axmed cali marka maxamuud axmed cali kaliya ma ahayn maxamuud axmed cali xaaj yusuf qabiile nin la oran jiray shaafshi adu rag shan bay haayeen basically ma garanay dhinaca koonfurta yani qaybaha deegaanada kala Soomaalida ma garanay laakiin deegaankoodu waqooyi buu ahaa marka 1920 weeyaan iyaga macluumaadka waxay si raba isku gudbin jireen markaas shaafshiro burcad jooga u soo cawday maxamuud axmed cali wuxuu ku yiri dadkii way dilayaan way dhagaxyeynayaan markaasuu aayad quraan u qoray si aan iyagu fahmino inay dacwadu qowmi laylan wa nahara falam yasidhum du'aa illa firara u qoray yani aniga waan dadaalaya laakiin wali qomkeygii sidii bay u dhagaadagyihiin isagoo leh anigu waxaan leeyahay intayna waxba dhaleecaynin intayna waxba ka soo horjeedsanin aynu akhrina wax ogow deedan adigu naftaada ogow feminismku muxuu yahay walaasha inaad u hiilisid haddaad xumaan u aragtid walaasha haddaad u aragtid yani inaad u gargaartid in xumaan tahay markaas adigaa ka leexanaya intaasaan kaga baxaya aad waa mahadsantahay waxaan hadda galaynaa qaybihii su'aalaha qofkii su'aal qaba waxaan ka codsanaa inuu gacanta taago kadib ayaan u yeeri doonaa kaliya qofkii su'aal qaba gacanta taago si aan ugu yeero qofkii daneynaya inuu buugga akhriyo ama aan hore u akhrin wuxuu ka heli karaa maktabadda Baraarug Library Facebook ama linkiga wuxuu yaalaa qaybta chatting ayuu yaalaa marka waxaa idinka codsanaa in aad gacanta taagtaan si su'aalaha idin siiyo good waxaan ka bilaabayaa Axmed Cali Axmed wax kale hadda ku soo koob su'aashaada aad u mahadsan أحمد ميكروفونك وكافوري هرسع اوكي ومحسنتين برارك نصرنا بوغادينا ولا شيء ذا buugaadu fiican yahay laakiin si guud markii loo feeriyo aan waxaan dhihi lahaa bulshada Soomaaliyeed dumarkana cadaawad lagu beerin waa naqana hooyooyinkeena si fiican ay dadku soo barbaariyeen gabdhaha iyo wiilasha ma ahan markii la dhaho gabdhihii jikay ku jiraan wax fiican waa jikadii ku jiraan oo hooyadeeda caawinaysa walaalkeedna banaankii wixii shaqadii wixii uu qabanaya iskuulkii hadda waxbarashada iskuulkii gabdha iyo wiilka hadda u sameeyeen xilliga hore oo kale maahan waxyaabo yaryar waa jiraan FGM-kii waxyaabahaas oo kale in laga hadlo way fiican tahay laakiin si guud anaga manihi Europe oo isku gumeysteen hadda Norway iyo wadamada Europe oo dhan dumarku waxay ku dhiirigelinayaan inay guryaha joogaan oo haddii dhasho sanad dhan fasax la siiyo mushaarkeedu u socdo hooyo noqdaan oo guryaha joogaan waxyaabahaas lagu dhiirigelinaya marka bulshadii anagoo bulsho muslima hadda ah oo dhaqankooda dhaqan ka wanaagsan leh in bulshada gabdhihii Soomaaliyeed oo cadaawad lagu beero ma ahan arrin fiican laakiin waxyaabo bulshada ay ku liidato way jiraan laga hadlo waxyaabahaas oo kale waan qabaa laakiin si guud afkaartan oo kale ma qabno anaga hadda walaashii mar waxay dhahdaa nasro dimuqraadiyadda Yurub ugu dayanayna wax walba oo xun ugu dayanayna wixii fiican waa qaadanayna wixii xunna waa ugu tagayna waa maasantiin aad waa maasanta Axmed taasi waxay soo jeedin dabcan su'aal ma ahayn sidoo kale waxaa gacanta u taagan tahay Axmed Isaaq Axmed hor soo walaal أنا بس أحمد كلوان أيوة أحمد أنا سوري محمد وين عفوا هذا ندين سلام يا برنامج كاسوق قابل غابسين ولا شيء نسرنا وان سلام يا somehow سؤال نوان قبا كومنتين ويودغانتا لكن waxaan jeclaan lahaa kaliya inaan hal su'aal weydiis kaliya su'aasha oo kormar su'aasha hadaan ku hormaro يعني نصرو يعني marka laga fiiriyo dhanka dumarnimada mise raganimada يعني dumarka inta badan sida ragga siyaasad u daneeyo ama shaqooyinka sarsar u daneeyo uma daneeyaan iyaga يعني boqolkiiba percentage jiro dunida dhan يعني waa lagu kala duwanaan karaa wadan laakiin يعني meelaha ugu badan uma simna يعني waa laga sareeyaa tusaale haday shaqo wada apply gareeyaan 10 qof oo 5 dumar ah iyo 10 shan dumar ah iyo shan rag ah intii bana la wada qaato laakiin bil ama laba bil sagaal kamid ah yani dumarkii haday shan ahaayeen shantii bil la ayriyo mise afar kamid ah la ayriyo
waxay ku doodayaan yani ragga ba lama ceyrinin anaga maxaa lanoo ceyriyaa oo kale su'aalo oo yani discrimination waaye ninkan wuxuu fiirinayay yani profitka businesskiisu sida u samayn karo uu fiirinayay taasi waa su'aal midda kale maxaa ka qabtiin haddii idinka gurigii si fiican u hagaajisaan oo howlihii guriga tarbiyayntii awlaadda iyo barbaarintood aad si fiican u hagaajisaan oo raggiina bannaanka ka soo shaqeeyaan taasna maxaa dhibaataa ku sugan aad iyo aad u mahadsantihiin waa mahadsantahay walaal maxamed waxaan isleeyahay hagaajinta guriga waa shaqo guud oo qof kasta u taalo marka ma aqaan sababta waxa dumar u yahay laakiin su-aasha waxaa ka jawaabi doonta nasra waxaa rabaa qofka saddexaad inaan siiyo fatxiya cabdinuur fatxiya hore soco midka kan qaaday fatxiya ma maqashaa okay waan gudbaya waxaan siinayaa ikraam cabdicasiis oo gacanta taagan ikraam السلام عليكم. برارو لايبرري أركاش إي نصرة إلمان organizers برنامج آذاني سلام يا برنامج كان آذ ونكسين هاي وحدير جنينا إن أيوة كلا تلسي بديو مشد آذ وبهين سمو كومنتي وكوبيس جرسنان دونا برنامج آذ في عنا نسرك هذا الشيء midda koowaad horta alxamdulilah diinteena waxayna siisay xuquuq aad iyo aad u badan tusaale ahaan haddaa ka taaban wax yar gabadha markay dhalato marka koowaad aabaheed waxay u tahay albaabka jannada oo xadiis iyo aayadiyo wax badan oo kusoo degeen marka labaad markay gabarnimo soo gaarto ee gabar weyn noqoto ninkeeda waxay u dhammaystirtaa haaf ka mid a diintiisa oo way is dhammaystirayaan marka saddexaad waa hooyada sida ognahay xuquuqay leedahay haddana jannadii waxay tagtay lugeeda hoosteeda markana marna ma dafirayna inay diinteena xuquuq badanna siisay alxamdulilah taasna waa mid ay dhiirigelina inay ogaadaan warka ragga Soomaaliyeed ama dhammaan raggaba inay ogaadaan inuusan barnaamijka mar walba diinta ku beesgaraysnayn oo la dhihin diinta waxay siisay xuquuq gabadhaha maxay kaloo raadinayaan arrintan maahan wax khusayso kaliya muslim ama diin waa waxay khusaysaa bulshooyinka caalamka oo dhan ama bini aadamka dadka meel kasta ku nool yihiin tusaale ahaan sheekeer hadda soo qaadano Barack Obama iyo Hillary Clinton Barack Obama markuu musharax ahaa westernka badanka dadku waxay ku dhiirigeliyeen ama nimanka markay musharaxiin waxay ku dhiirigeliyeen waxay dhahaan public speaking inaad dadka la hadashid marka musharaxta waxyaabahaas oo kaleeto xoog aad u saar emotionally inaa xanaaqi kartid mar inaa ooyin kartid si bulshada wax uga qaban kartaa bas markuu kambeynkiisa ku jiray wax uu sameeyay khudbadiisa waxaa kamid ah mar emotionally xaaladaas la joogay wuu ooyay waxay soo dedejisay in hore loo doorto si degdeg ah kadib Hillary Clinton 2016 markay ku jirta doorashadii sidaas la mid ah iyada waxaa lagu dhiirigeliyay waxaa lagu dhahay emotional dadka tusi inaa ooyin kartid inaa bulshada wax la qaybsan kartid mar walbeeto sidii sida mid ah sameysay laakiinse dadka dhan waxay ugu jawaabeen waxay dhaheen bal eeg naagtan fiiriya hadeertan ayadoo weli xil qabanin daciifnimadeeda ooyinteeda waa ooynaysaa kadib hadhood yaa ku aamini karo anaga ma ku dardaarmayna ma dhaheen ina xil ha qabato laakiinse waxaan waa wax dadka dhan saameeyey oo meel kasteeto qof walbeeta caalamka uu joogo dadka horumar iyo dad kale way saameynayso diinteena markaa usoo laabano wadamada qaar waxaa ognaanay 144 sano ka hor ama wax yar ka hor in la siiyo xuquuq anaga laakiinse waxaa la siiyey 1440 sano ama 40 iyo dhowr sano ka hor ikraan aad ma san tahay dabcan waa maqalay soo jeedintaada waxaan siinayaa qof kale waxa ka codsanaa soo gabagabeynaya dadka inay isku bees gareenin barnaamijkan iyo diinta inuu qof walbeeto inaa hooyada ama gabdhaha la boorgare waxay ku saleysan tahay bulshadeena mar walba faa'iido u leedahay salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam kaliya waxaan ka codsanayaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijka qofkii su'aal qabo kaliya gacanta taago qofkii soo jeedinahay waxaan ka codsanayaa inay qaybta chatting inagu soo qoraan marka su'aashii ugu dambeysay wareegii koowaad waaye
waxaan siinayaa cabdi maxamed warsame mikrofoonka ka furaya cabdi horsgal waxaan u mahadcelinayaa Brarub iyo soo jeedinta ay channelskana siiyeen buugga inaan dhageysano koleyda su'aal ma ahan waxaan rabaa inaan just 1-2 minutes kaliya inaan kusoo koobo maadaama Nasr ay ka hadashay international perspective ka on feminism. How about African continent? African continent waxay bilaabatay movementiga feminism mataqaana role of women in society aduu 70s wixii ka dambeeyay marka waxa campaign waxa la sameeyay African Hero States ki 70s ki jiray waxay dhaheen sidee u aqoonsanaan karnaa gabdhaha inaan investment ku sameeyno siday uga qayb qaataan constructionka markii laga hadlayo modern state-ka sidee loogu dhiirigelin karaa marka sababta Afrika ay mataqaana wadamada hadda horumarka ugu sameeyay Afrika ugu badan waxa foundation u ahaa dumarka u ahaa marka how about mataqaana isbedelada sameeyeen hadda wadamada hadda aad dumarku waxay u bedelaan waxa kamid ah hadda Liberia 25 years markay ku jirto conflict dumar ba hal mar taladii la wareegay movementiga feminism ba aad u saameeyay oo change badan bay sameeyeen systemkiiba galeen nidaamkii dawladnimada bay mataqaana establishment adag bay sameeyeen institutions bay sameeyeen marka markii hadda la soo qaato Ellen Johnson Sirleaf oo kale madaxweynihii hadda waqtiga qabtay Liberia markaan soo qaadano oo kale Joseph Banda madaxweynihii Malawi oo kale marka waxa hadda qaarad wax xoog saaraysaa gabdhaha in la soo saaro sidoo conflict u yaraado hadda community-na marka waa maxay dhibaatada waxaan haysato waxaan fahmi la'aanahay diintii iyo feministii waxaan rabnaa inaan isku kala qaadno marka waxa loo baahan yahay sida anagu horumar ku gaarno haddaan nahay society haddaan nahay generation gaarnay waa inaan gabdhaha investment ku sameeyno waa inaan gabdhuhu ka qayb qaataan nation building gabdhuhu inay ka qayb qaataan conflict resolution gabdhuhu inay ka qayb qaataan representation ka qayb qaataan kama bixi doono haddaanan empower garayn next generation mataqaana dumarkeena kama bixi doono conflict marka realistic waxa weeye laws waan sameyn karnaa legislation baa loo baahan yahay xadida rights-ka dumarka sidaan u gaarno prosperous nation taasna waxay ku xiran tahay inaan expertise-koona dhageysano inaan dhageysano mataqaana inaan dhageysano value system-kooda kor u qaadno inaan kor u qaadno waxbarashada inaan educational transformation in waxaas dhan laga dhiso haddii aanan aqoonsan weyno roolka dumarku ay leeyihiin society-ga ama state building-ka oo 21st century state building haddii laga hadlayo haddaan u qaadan weyno gabdhaha serious u qaadan weyno call to action weyn marka call to action waxaan ku gaari karnaa inaan aqoonsano roolka ku leeyihiin dumarkeena waxbarashada laga dhiso skills la baraa ganacsiga la baraa wax walba oo innovation la baraa waayo hadda crisis-kan ku jirno COVID-19 waxa weeye waa call to action waxa leeyahay gabdhaha waa in la aqoonsadaa role of women in society haddaan aqoonsan weyno ma jiri doono marka waxaan aqoonsanahay diinta waa meesheeda laakiin waxaan rabnaa inaan aqoonsano rights-ka maxay yihiin haddaan dib ugu laabano century-ga soo jiray diinta islaamka gabdhaha waa la aqoonsan jiray rights-kooda gabdhuhu foundation bay u ahaayeen Islamic state-ka marka waxaan rabnaa inaan aqoonsano how do we mataqaana build a trust how do we make sure that waxaan soo saarnaa generation gabdhuhu ay rights-kooda mataqaana protected yihiin laws la hormaray laws legislation la pass marayo gabdhaha xuquuqdooda kor u qaadaya marka going forward waxaan taaganahay gabdhaha waa in aan xoog la saaray inclusiveness-ka waa waxa kaliya oo horumar ku gaari karno haddaan nation nahay haddii aan taa aqoonsan weyno I think waxaan gelaynaa another 30 years of conflict marka going forward haddana waxaan kusoo jeedinayaa gabdhaha 3 times baan ku celinaya waa in investment aan ku samayno oo aan dhageysano oo aan ka fakarno how do we address the gap as society as the next generation maasantiin aad maasta cabdi waxaan qiyaasaa in buugga soo akhrisay xog badan aad ka haysid maadaama su'aalaha la weydiiyey nasre aad u kooban yihiin waxaan jeclahay dadka inaan siisi Janis wili waxa gacanta u taagan Liban Ali Barre Liban hore su'aashaada soo koob hal su'aal hada wadi karto fiican Liban
liibaan codka waa kaa furay mar kale hore socdaa. Okay, waxaan fursad siinaa mar kale xikam daahir. xikam haddaad su-aal qabtid su-aashaada weydii nasra. muudka ka qaadeen cukaasha wada raali xikam codka ku furan yahay. waan idin salaamayaa bahda maktabadda nawaal iyo nasra iyo cukaasho barnaamijka daadihinaya. runtii waxa weeye barnaamij aad u xiiso badan buu ahaa, wax badan oo macluumaadana waa ka faa'iiday. marka waxa weeye hal su'aal iyo comment yar oo maxaa la yiraahdaa daqiiqadan ka badnayn baan haddii ilaahay yiraahdo ku darsanaya. marka commentiga waxa weeye barnaamijkan runtii wuxuu quseeyaa waa sida maaragtay bulshadeenu u dhisan tahay, oo bulshadeenu maxaa la yiraahdaa u malayn maayo qofka hadda maanta haddii la yiraahdo dumarkeenna oo la ogaaday, waxaa la oran karaa burburkii soomaalida ku dhacay, waxaa la ogaaday wax adiga caddayn buu wuxuu u ahaa roolka ama maxaa la yiraahdaa booska dumarkeennu ay bulshadeena ugu jiraan, oo waxay noqdeen lafdhabartii bulshada haysay oo lagu badbaaday. marka iyadoo saa loo ogyahay haddana ma u malaynayo qof haddii maanta la weydiiyo la dhaho dumarka wax badani ma ka maqan yihiin, oo in waxa weeye kor loo soo qaado oo waxyaalo badan loo sameeyo, qof oranaya maya waxa weeye wax walba waa okay. hadda qof maaragtay isyeelyeelaya maahane u malayn mayo in qof kale saa oranayo. marka iyadoo taa laga duulayo innaga bulshadeennii qaabkan hadda nasra ay sharxasay oo ah bulsho maaragtay aabuhu uu yahay sheefka maaragtay xaafadda oo saa maaragtay ku dhisan ay ahayd. marka si waxa weeye taa loo bedelo oo structure-kii bulshada wax looga bedelo, waxay ku xiran tahay ay qusaysaa awood baa meesha jirta. waxa weeye authority-gii family-ga iyo suu u dhisnaa. marka bulshadii sidaa usoo dhisnayd marka ay maqlaan maaragtay sida hadda nasr ay sharxday, dad baa marka ereyadan oo kale ay maqlaan maaragtay feminism oo kale, waxay moodayaan in maxaa la yirahdaa awoodoodii iyo suldadoodii in la manjaxaabinayo. waana la oran karaa sidii hadda nasr ay sharxday, dad baa jira inta maaragtay bahalkan ay dhinaca ka streamka u qaadaan. xikam su-aasha ugu gala ma su-aasha ugu gala marka su-aasha nasr aan weydiin lahaa waxa weeye si bulshadii aysan meeshii khilaaf uga imaan maaragtay ragga iyo dumarka isku lida uusan meesha uga soo bixin, dumarka xuquuqdoodina loo hormariyo, ma jiraa qaab maaragtay feminismka isagoo soomaaliyeysan oo ama ereyada laga bedelo ama maaragtay si dadkii ay qaadan karaan waxa weeye loogu sheego qaab maaragtay xuquuqdii dumarka marka waxa weeye kor loogu qaadi karo. aad iyo aad u mahadsan tahay su-aashaada qiimaha badneed. waad ka xiri kartaa codka. waxaan rabaa inaan fursad wiilka siiyo xasan cabdi xasan. walaal su-aashaada waa weydiin kartaa, codka waa kaan furay. xasan. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مان براروج iyo dhalinyarada soo abaabushay barnaamijkan xiisaha leh aadan ugu mahadcelinayaa. marka xigta aadan ugu faraxsanahay sida quruxda badan oo walaasheen nasra ay noogu bayaanisay buuggii. aniga aragti yar baan qabaa iyo su'aal ma ku dheeraan doono insha Allah. sida oo nasra ay ka dhawaajisay dhaqanka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu saameeyo aragtida bulshada ay ka qabto gabadha waxa ay tahay. aniga shakhsiyan waxaa jirtay 2 sano ka hor research paper aan maxaa la yiraahdaa gudbiyey oo ku saabsanaa aragtida dhaqanka Soomaaliyeed oo gabadha ka qabo. marka family-ga oo dhan Soomaalida gabadha wuxuu u arkaa yani material oo guur diyaar u ah, taasaa lagu soo barbaariyaa. way ka dhawaajisay walaashay in la dhihi jiray gaagaabso, dhidibso, tartiibso, gabar baa tahay. dhanka kale dadka ugu dhow oo maxaa la yiraahdaa xuquuqda gabadha u dooda markay ka hadlayaan waxay dhahaan gabadhu waa hooyadeen, waa walaasheen. aniga sidaas ma qabo. gabadhu waa bani aadan in la yiraahdo aan qabaa yani oo xuquuq iyo maxaa la yiraahdaa sheekeen nolol u baahan. sababtoo ah ninkuba waa aabbaha, waa xaaska, waa abtiga, waa adeerka, waa walaalka. gabar oo maraykaneed ahaan u malaynaya waxay tiri buugay qortay ninka Soomaaliyeed gabadha Soomaalida ah wuxuu ku amraa 3 kalimadood ay tiri
saddexda kalimadood waxay kala yihiin kari oo cuntada laga wado keen oo iisoo adeegoo laga wado iyo kaalay maxaa la yidhahdaa markuu gabadhii u baahdo waxaan aniga iyo dhalinyaro hadda ka hor samaynay tijaabo yar soomaalida oo internetka ku jirta gabadha see u arkaan aan rabin inaan muujino marka internetka googleka haddii lagu qoro gabar soomaaliyeed waxaa soo baxaya wax laga xishoodo waxa ugu dhow hadda aniga afkayga soo qaban kara waxaa waaye gabar soomaaliyeed oo qaawan yani tan ugu fudud waayo wax soo baxaya gabar soomaaliyeed oo qaawan waayo waxyaabo kale oo ka daran marka dhaqanka soomaaliyeed in shift uu sameeyo uu isbedel weyn ku dhaco waa loo baahan yahay sababtoo ah gabadha markii maxaa la yidhahdaa horumar ay gaarto bulshada horumarkeedii ay saameynaysaa gabyaa oo carab ah wuxuu yidhi al-ummu madrasatan idaa acdadta shacban tayiba alcaraaqi gabadha waa dugsi haddaad iyada diyaariso waxaad diyaarinaysaa shacab qiimo badan leh marka aniga hadda waxaan weydiin lahaa walaashay Nasra ma jirtaa qaab gabdhaha Soomaaliyeed way jiraan ururo oo xuquuqda gabdhaha u dooda laakiin qaab intay is abaabuleen ay ku cadaadin karaan siyaasiyiinta gabdhaha haweenka ah in ay maxaa la yiraahdaa diiradda soo saaraan miiska siyaasadda inay soo saaraan arrimaha haweenka aad iyo aad u mahadsantahay xasan dabcan maadaama cilmi baaris aad ka samaysay arrimaha haweenka waxaa jeclaan lahayn haddii cilmi baaris aad samaysay nala wadaagi kartid waxaan gelin lahayn maktabadda nafteeda si dadku u akhristaan waana ku mahadsan su-aashaada su-aasha ugu dambaysan qaadaa wareeg koowaad waxaan siinaa zuhuur maxamed zuhuur su-aashaas soo koob adoo mahadsan si nasa inoogu jawaab kadib noo soo laabanaa zuhuur hello waa ku maqan laalaab hore soco asalaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamayaa saaxiibada kala gedisan caawa ku jira liveka zoom gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha madasha baraarug nawaal axmed shariif nasra abaa aad iyo aad ugu mahadsan tahay tafaasiishii dhammaystirneyd ee ku saabsaneyd arrimaha haweenka iyo soomaalidu waxay feminismku u adeegsan tahay waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo soomaali markaan nahay inta horta su-aasha weydiin waxaan rabaa inaan wax yar ka hormariyo dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay horta magaca feminism marka ay maqlaan waxay ka qabaan wax la dhaho phobia ka qabaan marka dadka Soomaaliyeed horta waxay u baahan yihiin waxa kan intaysan phobia ka qaadin ama aysan ka qabin marka hore bal waxa feminism uu yahay inay horta bal fiiriyaan oo tacliiqiyaan ama analyze gareeyaan ama wax badan oo ku saabsan feminismka hadii ay tahay African level Somalia level and as globally inay wax badan ka ogaadaan dumarka Soomaaliyeed marka laga hadlayo raggu waxay ku doodaan marka laga hadlayo gabar Soomaaliyeed marka la leeyahay woman empowerment iyo gabadh in wax la baro macnaha inay shaqaysato oo financial ay xor noqoto hooyadu ma taqaana suuqa joogto Soomaaliya magaaladii aad ka imaaday anigoo kale ama guud ahaan Soomaaliyaba boqolkiiba 90 inta aan dhihi karo last 35 years ama ka sii hor anaga jiilka hooyada iyo kii ayayada oo kale dadka Soomaaliyeed waxa soo koriyay waa hooyo Soomaaliyeed oo u soo shaqeysay marka waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed dumarka aan fahamsanayn feminismka ama womanismka waxa la dhaho iyo ragga aan fahamsanaynba waxa la rabaa horta Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaas daystaa may horta waxa kan day macna intaysan feminism u boodin horta guryahoodii iyo bi'adii iyo magaaladii ay ka yimaadeen inay dib ugu laabtaan oo fiiriyaan environmentiga ay ka soo baxeen lama dooni marka la rabo in barnaamij la waajiho xaqiiqada lagu wajahaa marka waxa la rabaa inay wax badan ka ogaadaan haddaan wax yar dib ugu laabto islaamka iyo haweenka zuhur waxa jeclaan lahayn in su-aasha toos uga jeclaan lahayn waqtiga gabgaba nabiga qofkii ugu horeysay oo macnaha garabkiisa Khadiija ahayd scholarkii ugu fiicnaa oo diintan wax badan soo gudbisay Aisha ahayd jacaylkii ugu badnaa qofkii nabiga u hayay ama u haysay waxay ahayd Faatimo bint Rasuul radiyallahu anha dhammaantood nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaato marka su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay abaaye innaga Soomaali ahaan marka aan Soomaali nahay oo dumar Soomaaliyeedna ama bulshada Soomaalida oo rag iyo dumar kale marka aan nahay waxaana loo adeegsadaa wax culture la dhaho tusaale ahaan geeraaradii ay gabadha soo qaadanaysay oo la dhahay kale dhowcilisaas waxaas ma samaysay aamus iyo hadlin iyo la dhahay oo kale anaga waxaana loo adeegsadaa culture-na loo adeegsadaa oo Soomaalida dhaqankeedana lagu cabiidiyaa sidoo kale gabdhaha dhawaan wax bartay marka ay tiraahdo gabadha waxa kan dumarka uma fiicna ama like waxaan insaani u fiican inay sameeyaan ama dumarka saana raba in wax loo barto rag diinay la soo baxayaan waxaan rabaa Nasra dadkan inay u kala cadayso culture-ka iyo diinta
gabadha culture-ku waxa uu siiyo Soomaalida oo saxda iyo waxa oo mataqaana anaga oo negative-kana loo adeegsanayo sidoo kale waxaan rabaa aqoonta khaladkana looga fahmay inay dhanka saxda uga iftiimisa sidoo kale waxaan rabaa diinta raggu mataqaana anaga ay madaxan uga istaagaan oo la kala haafiyo sida ayadaha qaybna la qaato qaybna oo banaanka la keeno oo waxaan rabaa inay wax yar uga iftiimisa aad u mahadsantahay thank you aad u mahadsantahay nasra soo dhawow dabcan waxaan rajeynayaa su'aalaha ku qoran yihiin waqtiga aad u kooban yahay bal inta ka jawaab kartid nagu jawaab مرة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدح سؤالات بالينا ويدي إلا إن كشاشي جور سقف فينا ويدي مجلس جران مايو سو تشيدين ده كده بوحينا ويدي سداد واركتا إن هواينكو إن يجوا يحاولها جوري قبطان رجنا أي بنان كسر شقيان سؤال هذا سكوبان وجتوا وحن ويدينا يا دل صوماليا أو كلا أو social welfare وحلا رهضو أم بدولدو أيضا كتاجر تأمن شرين aanu jirin nidaam waxbarasho oo bilaash ah aanu jirin caafimaad waxbarasho oo bilaash ah qofka shaqooyinka 70% ay tahay qaadama dharge yani maalinaad shaqo heshid iyo maalinaad shaqo weydid ay tahay haddii la yiraahdo 50% bulshadii kamid ah ha fadhiistaan oo iyagu quud sugayaal ha noqdaan oo yani waxba soo saarin yani waxba la imanin noloshaasi nolol sidee noqonaysaa gabadhii tiraahdo imika haday gabadhu tiraahdo anigu ma shaqeynayo shaqo ma qaban gurigaas ka fadhiya waa choice haday tiraahdana waan shaqeysanaya oo waxba la soo baxayana waa fikir kale laakiin ma ku fil yani ninkii guriga ma ku filaanaya bulshadii quudintii ragga oo kaliya timay yani inteenaan isweydiin dumarka guryaha fadhiyaan dumarka guryaha ubadka soo saaran ubadka soo tarbiyadayaan taasi waa sax waa muhiim laakiin aabihii qoyskii ma ku filaanaya dhammaanteen sidaan hadda ka hor soo sheegay hooyooyinkan wuxuu bay ka shaqeeyaan waxay doonaan ka shaqeeyaan leeno kaabis bay noloshu u baahan tahay caafimaadka dad xanuunsatay dhakhtarkii lacagtiisa aad iska bixinaya hantiisi aad u heshid adiga yani dawlad ku caawinaysa ma jirto Soomaaliya wadan Soomaaliya oo kala ah oo distraction ku yimidina iska daa gacan kaliya tii la shaqeysanaya laba gacmood shaqeeyaan baa loo baahay si nolosha loo horumariyo gabadha hadday shaqaysatana waxay shaqaysato qoyskeeda iyo bulshadeeda un bay ku celinaysaa maaha wax la daadinayo amba qaab kale ku baxaya haddii ay aqoon leedahay oo ay empowered tahay oo ay wax garanaysana gurigeeda dhexdiisa ka shaqaysan kartaa gabadha shaqaysanaysaana maaha macnuhu inay ubadkeedii dayacday maaha macnuhu in wixii ay qoyska ka qabtay ay meel kaga tagtay laakiin waa iyadoo nolosha labada dhinac baa laisku balance garaynayo waxa kaloo ina weydiiyey hawlaha guriga hooyooyinkood bay caawinayaan jikada inay ku jiraan waa muhiim adigu hooyada inaad caawisid amba raggu inay hooyada caawiyaan loogama baahna miya iyaga loogama baahna miya inay hawlaha guriga haweenka ka caawiyaan waxyaabaha dhibaatada weyn ku haya haweenka guriga haweenka Soomaalida waxa kamid ah 5 sano markay tahay bay shaqada bilaabaysa 40 sanana jilbaha kama kacayso laana wax kasta guriga yaala iyada qabanaysa Robert عمل بوشقينسا 24 hours non-stop mission device بيسوي شقينسا قف وجرك وبلادن نصين بو باهي هاي دالك بيس بو باهي هاي قف شغل كستما قبان كرو so aniga waxaan qabaa fikir ah inta guriga joogta qof walba hawsha halkii kaga soo hagaagta ha qabto wala shahaday intada kariso adigu welcome eeb maaha nabi maxamed hadii oo diinta su'aasha dambe ay suuri weydiisan ugu noqon doonto hadii diinta siday tahay ugu dhaqmaysan xataa walaasha xaq ugu malihid inay ku shaqeyso farxalkaaga iyo sharbaadkaaga ku maydo walaal walaasha guriga hooyadeed bay joogtaa guriga hooyadeedna iyadu mas'uulka ma aha marka su'aasha saas lagu bixi lahaa yani dal Soomaaliya oo kaliya kala ahi ma oran karo haweenka guriga ha fadhiyaan oo waxba yani soo saarin deewaana ognahay 60 kamid ah 60 bulshada kamid ah suuqa ka shaqeeya shaqooyinka doonaan qabtaan laakiin waxaan bay eeganayaan labada hab 10 hablood hatta 10 ma dhame intay wax barteen amba dhaqaatiirta ah amba maxkamadaha jooga amba macallimiinta waa inta la target gareynaya laakiin 60 ka suuqa ku balanbalaya caanaha iibinaya hilibka iibinaya waxa iibinaya tamaandhada iibinaya lama eegayo okay su'aashaas halkaas kaga baxay su'aasha labaad waxayna weydiiyay Xasan Barre hadaan qaldanayn wuxuu yiraahday qaab dumarka Soomaalida kuwa xuquuqda haweenka u dhaqdhaqaaqa inta isku tagay ragga ku jalan siyaasiyiinta ku jalan kareyn kara mu jira horta aniga intaan soo faarintaan ogahay ma jiro waxa jira ururo haween oo ka soo horjeeda FGM ka way jiraan ururo haween oo maxaan ku dhahdaayay laakiin bidad qolooyin
siyaasiyiinta challenge gareynaya ma jiran leano siyaasadda lafteedii baan iyadu meel ku salaysnayn oo maalinba dhan u guuraysa maalinba cid ah maalinba qaab ah iyaga laftooduna siyaasadda inay ka mid noqdaan wax sahlana maaha leano siyaasadda soomaalida waxay ku dhisan tahay qabiil haweenkuna qabiilka kama tirsana waxyaabaha kale ee haweenka dhibaatada weyn ku haya waxaa ka mid ah haddaan anigu maanta isu soo sharaxo oo aan amba xildhibaan isku soo sharaxo amba waxaan doonaa isku soo sharaxo waxaa la odhanaya gabadhi dhaxdina maaha dhalashana maaha reerkaagii aad ka dhalatayna kugu codaynaya leano marka hore uma tirsanid kii aad guursatayna waaba dhaxdin baa lagu dhahday dhaxdin waxaa la dhahaa habeen baan kuu dhaxaya macnaha waxaan rasmi ma tihide one night baa tahay macnaha dhaxdin soomaali saasaa lagu qeexaa kule intiin soomaaliga garanaysaa sida macnuhu garatood garanaysaane midna labada dhinacna taageero kama helaysid so marka iyagu haweenku inay iyagu is abaabulaan oo iyagu codsa siiyaan waa case gaara intaan ogahayna hawshaas oo kale cid ku dhaqaaqday maan arag suhuur baa iyadu su-aal muhiim ayna weydiisay waxaa rabaa horta marka la leeyahay haweenka xuquuq baan ka maqan laga sheekeyn maayo xuquuq ay diintu ka duudsiday lagamana sheekeynayo waxa laga sheekeynaya xuquuqu dhaqanku ka duudsiyey anigu ma garanayo soomaalidu markay haweenka cabirayaan xagga diinta kaga tagaan ay dhaqanka u raacaan diinta islaamku inay haweenku waxbarasho kamay diidin oo waxa la yidhahda qofka nabi maxamed alayhi inay xadiis tahay ma hubo qofka gabadh wax baraa wuxuu dhigan yahay oo ummad wax baray xataa xilligii islaamka la fidinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenka wuxuu u sameeyey maalin gaara oo iyaga la hadlo oo iyaga wax baro oo iyaga wax u sheego macnaheedu waxa weeyaan haddaba xaggee ka keentan dhaqanka ah in inanta iskuulka loo diro inanka iskuulka loo diro inantana la idhaahdo amba cuntada sii kari amba waxbarashada ha tegin wallahi ma garan karo taasi siday ku timiday feminismku waxa uu ku salaysan yahay waa aniga kula qolo walba contextkooda inay ku saleeyaan deegaankooda inay ku saleeyaan diintooda inay ku saleeyaan weeyaan feminismkuna maaha something oo kasoo horjeeda diinta waa wax kasoo horjeeda dhaqanka diinta islaamka haweenka kuma qasabto gabadha nin aanay rabin ay guursato xataa haddii aanan qalad sheegaynin waxa dhacday gabadh nebiga u timid oo ninkan waa nahay iga fur ku tiri ayaa riwooyinka qaar lagu sheegaa marka gabadhu diinta islaamku raalli kama aha gabadha ninaanay rabin ina lagu qasbo diinta islaamku raalli kama aha gabadha ina ay qabiilooyinka la iibsadaan oo gabaati intaa bixi yarad intaa bixi la idhaahdo diinta islaamku raalli kama aha in inanta aabeed intuu shax soo ciyaaro amba turub soo ciyaaro uu daafsan karo kamana raalli aha in hadiyad gabadha lagu bixin karo raalli kama aha gabadha yani in boqolkiiba boqol diinta islaamku raalli kama aha in haweenku aan la idhahdo ha shaqaysanina leano khadiijaan garanayna oo qofkii ugu taageerada badnaa ee ugu maxaan ku dhahdaye dadaalka badnaa waxay ahayd oo maxaan ku dhahdaye khadiija ahayd radiallahu canha oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida u garab istaagtay aan garanayno laakiin dadka dhaqanka ka faa'iideysta ee dhaqanka ku danaysta ee iyagu dantooda ku wata baa waxay u arkaan soomaalidana waxa ku dhacday in diinta iyo dhaqanka iskaga qaldamay oo ay meelaha qaar dhaqanka laftiisa ay u qaateen wax diina dhaqanku diin maaha dhaqanku aayado quraan oo samada kasoo degay maaha waa wax la bedeli karo waa wax cid meel ku salay degani ay hadba nolosheeda qaab ku habboon ay u qaabaysato dhaqankii shalay toole haddii uu ahaa ina la idhaahdo inanay waxbaha baranin maxaan ku dhahdaye guur u sug oo nolosha inanta laga aaminsanaa gabadh godha kaaga jirto amba gunti ma garanayso taasay ahayd amba nin ha kaa qabo amba ha kaa aasnaato meyti ha kaa ahaato hadduu dhaqankii shalay toole ahaa waxaan leenahay gabadhu waa dad yani aniga basically waxaan wataa contextka ah dumarku waa dad oo dareen leh waa dad oo rabitaan leh waa dad oo hiibsi leh waa dad nolosha hadafka leh waa dad meel ay gaadhaan doonaya intaana diinta islaamka waxba kama qabto sidaad adiguba intaa u rabtid bay inantuna intaa u rabtaa marka yaana loo qaadanin feminism marka laga hadlayo amba xuquuqda haween baa ka maqan laleeyahay ina laleeyahay diintii baa laga cararayaa nasra aad mahadsan tahay waqtiga aad inagu yar su-aal waxaa jirtay ku weydiiyey xikam oo ahayd feminismka ama haddii soomaali lagu dhaho sinaanta sidee loo soomaaliyeyn karaa hadda soo ka kurta jawaabtaas shuur walaalo sidaan hadda ka hor inoo soo sheegay haddii aynu caqabad ka qabno ereyga qaab kale inuuga wareegi karnaa si inagu aynu isla fahmayna ayaynu u dhigi karnaa cilmi baadhis bay u baahan tahay oo ina loo fadhiistay u baahan tahay sidee bulshada ku qaadan kartaa sidee bulshada ay wax u cuntamayo oo ka daadega oo cunahooda istaagan u noqon kartaa ina laga fadhiisto oo yani aniga ereyaan halkan ka idhaahdo ma noqonayo laakiin sinaantu gurigay kasoo bilaabataa
aad baa mahadsan tahay waxaan qaadayaa 3 su'aal oo kale ugu yaraan waqtiga aad u yar awgeed waxaan u yeerayaa cabdifataax xiiri cabdifataax su-aashaada soo koob adaa mahadsan haddaad su'aal qabtid kaliya su'aal مريم خلاص waa kuma la hor soo cabdifataax سوق باتات وهرين فلان معلقة أجيبنا مشكلة نوال سيدو كذا نسرع أيضا ومعصم هاي ومستحيل وكاش حاربة إنها سؤال حوالي عرس إنه فيديو سأقولنا هذا في المستوى وحولي هاي قيبوك اللي لي نوعيوك اللي هاي هذا يرتاح حسب وقت قرينا طبعا سأني أقوى مسيس نسرع إنت من هذا صومالي وومن انفيرومنت وحكي كامبينز لكن في المستوى جم ولي موصل نقدر نحبلاون even هذول نقدر نحبلاون صور كلمها محل وش أشياء يسوحها إن عن سو أنت بدنا هذا واحد في المستوى لو أبلاي قرين كرو دخلت الدين كحلقات سو حقنا دت كان ولي ثقافة يعني واحد أد وما ينسيب بدن كود حلقية ودت كهولاس كشخصية أو واحد صور خدها هاي إن هوانا هاي ل جندر كيجا هوانا أما سكت كيجا هوانا هن إن أنت أصاب بحد بار أصاب في المستوى هذا أيضا أنا بحبك وين حالها waxyaabahan socialism iyo sida noocyada ay yihiin soo marka wax aan ka doodaa waxay tahay even Koran hadii radical feminist uu dhaco in la qaato soo radical feminist waxa ognahay wuxuu aad u boolin gareeyaa raggi soo wuxuu dhahaa maxay tahay sidoo kale discrimination oo meel ka dhan oo sameynaa heer ilaa waxay gaareen maxaa la dhahaa theory-gan maxaa la dhahaa feminist gaar ahaan radicalka in ay dhahayaan maxaa la dhahaa marriage kan nimanka la iska daayo lesbian hal wada noqdo so in ay dhahaan maxaa la dhahaa waxay suggestionayaan in la helo janjis kuwa ugu soo jilicsan waayo kuwaas janjis in la helo technology in ay allow gareyso in caruurtii lagu koriyo meel ka baxsan jirkii haweenka ima hadii intaas aan heli karin oo maxaa la dhahaa technology ay noo saamixayso in ama ay adkaato in calooshan meel ka baxsan cunug aan ku dhalno ama ku sameeyno aab iska deeno nin oo dhan oo aan sameeyno maxaa la dhahaa lesbian oo xeenka even Koran marka hadii maxaa la dhahaa campaign ceenkaas ama noocan oo kale inta ka dhaco ku soo bataan bulshadii gabdho badan oo wada lesbian soo marka soo ma la dhigi karo marka hadda wax oo ku habooneen xogaa tayo culus tahay maadaama dadkii wax badan ay ka fahansaneen soo marka soo kuma habooneen in kaliya lagu soo koobo women environment campaigns ka ay hal xoojiyo mis waxa leedahay radicalka naftirkiisa waa haboon yahay lesbian xitaa maxaa la dhahaa anigu waxaan dhahay wax applicable ku ah bulshada Soomaaliyeed in aan xitaa u qaadan kana ama leedahay هذا ما ستة عرفتها هذا ما ستة منيرة قاعدة كنت أجمع عطك كان فوري منيرة سؤال شهر وقال هلا منيرة من وقشة اوكي نوح عبدي نوح عبدي سؤال شنو ولا السلام عليكم مركورون السلام يا دمانتين به وادو عشان بان مالينيا قد بكون مقال لها سؤال شهر جوجل سنكو بدا باسم aniga saashaydu waxa weeyaan aan toos u galo maadaama waqtiga waxa weeyaan aan badan kusoo dhex jirnay waxaad tirahdeen feminism is for everyone taas la iskuma diidana dhaqankii baad inta badan waxa weeyaan aad tirahdeen dhaqamada xunxun baan waxa weeyaan aan meesha ka saarayna diintana kama hor imaanayso markii barnaamijkii gudaha loo sii daadegay wax badan baa mataqaanayay u baahan la isu dheelitiro baad tirahdeen isu dheelitirkaasi anigu waxaan qabaa inay adag tahay in mataqaanaaye miisaan la saaro sidee la isu waafajinayaa dhaqankii wanaagsanaaye diinteena faraysay iyo waxaynu doonaynay aad leedihiin waxa weeyaan gabadhu waa inay xaqeedii heshaa oo sidan yeeshaa oo ay sidan yeeshaa sidan yeeshaa inagu markan aayadaha iyo axaadiista iyo waxa weeyaan aynu akhriyayno oo diintu waxayna farayso aynu eegayno nisaakum xarsum lakum baa la yidhi waxaana la yidhi haweenku magan baydin yihiin marna guriga aabaheeda joogtaa marna guriga ninkeeda joogtaa haddii waa wax mar walba mas-uul laga yahay waa inaan wax dhaho waxa weeyaan
waa laga fiican yahay waa run aad baan taaraaligan laga bixinaya waa qof laakiin mar walba mas-uul laga yahay oo waxa weeyaan cid magan u ah haddaba sidee laysu waafajinayaa inay gabadhii waxa weeyaan gurigiina ka baxdo oo ay shaqo tagto markii dhaweyto qodobkeena sarkaalisa qodob aad muhiim u ah buu ahaa inay gabadhii gurigii ka baxdo oy soo shaqayso sidii ninkii waxa weeyaan nafaqadii ninka lagu xukumay oo kale ay tiraahdo ama qoyskaygaan u shaqo tegayaa ama nafteedaan u shaqo tegayaa iyo tii ilaahayna faray yeela lahaa beer bay idin yihiin wixii nafaqaa idinkaa laydinku waajib yeelay ee idinku soo dhiciya labadaas su-aashaada waa waadix aad umaasantahay nuux aad umaasantahay waa nasra ka jaabi doonta waxaan siinayaa doctor maxamuud cadde doctor soo dhawow dabcan maxamed sheekh waxaan ku siin doonaa expert comment intaan adigu siin waxaan ka hormarinayaa doctor maxamuud cadde codka kaa furay soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rajaynaa in aad la ii maqlo aad iyo aad kor u socda insha allah su-aasheedu waxay tahay horta way mahadsan tahay waxaan rabay inaan weydiiyo in sidee jiilka aniga aan hadda ka mid ahay loogu dhaadhicin doonaa in dumarka ay xaq raadinayaan anagoo og in waalidiinteen ay anaga yani haddaa dhakhaatiirna haddaa wax kasta nahay in dumar ayna soo saareen hogaamiyaha aara aragto inuu dumar uu soo saaray dadkan yani mas-uuliyiinta ah wanaagsan يعني له هجامين وناكسن دنيا هيرك جار إن دمر إيسو صارين أنا جو أك تدين جيل كنا أما جيل كفاس على عنا إن حق كما كنت هاي أنا جو أك هذانا إن قرآن كنا مقدس كا يعني يسوبنا هنا وحيابه نفرعي إن دمر حق بدن لثيجي هذانا ما أخان ماشي إسكي قبل الله هاي إن هذانا دمر كي حق في رادنا هذا السياسة هذا الدين مال والبا يعني وحي دفرز يجوا المثال هاي ويعني مالها وهبون كان انتو wanaagsan ay degan yihiin the best waa la xaqlowraa and position waxay degan yihiin dumarka isleeyahay in rag weligood aysan degi doonin xitaa maahan yani ay degi doonaan ay ka imaan doonaan xitaa maahan yani position waxay dumarka fariyaan oo ah ixtiraam qadarin meel wanaagsan ah marka waxaa qabtaa in hadan la su-aashaada waxay tahay xaqa dumarka iraadinaya maxay tahay oo xaqa maqamiyaa su-aashaas saas miya ها سيدا جيل كان لو دارعنا إن دمر حق إيه كم قيمة هذا ما استوى هذا ما استوى وقفان وقدام بين وحن فرصتنا محمد شيخ سودو إن واحد نلو ذاك اللي سؤال عم سو جيدين هذا أدو مثلا عكاش وما تنتهي waxaa kaloon mahad ballaaran u jeedinayaa nasro iyo nawaal kaliya aniga tala badan ma sheegi rabo macnaa war badan ma haayo laakiin waa idin dhegeystay aadan ugu faraxsanahay dhalinyaro oo study sameynaya book review sameynaya doodahan globaliga ka doodaya oo raba see localka ama bulsho ahaan saan uga faa'iidaysan karnaa runtii aad ii farax gelinaya waxayna tusaysaa mustaqbalka soomaaliya meel fiican inuu ku socdo marka akhriska hala wado book reviewga hala sameeyo kaliya waxaan rabaa nasra waxaan soo jeedin lahaa markii buugga ay soo bandhigaysay buuggii background kamaysan bixin haddii aysan idhaafin aniga buugga description kamaysan sameynin goormaa la daabacay yaa daabacay imise bay buu ka kooban yahay imise ka kooban yahay wax review ama lagu sameeyey dood ma dhaliyey sidoo kale backgroundka qofka qoraaga ah nama siinin meesha uu kaga jiro doodan feminismka iyo gender studieska taas marka waxaan rajaynayaa doodihiina soo socda ama book reviewga soo socda in tixgelin lagu sameeyo oo qoraaga iyo buuggaba horta dadka la baro sidoo kale topiga naftiisa in dadka briefer laga siiyo inkastoo brief fiican ka bixisay laakiin brief ka yara ballaaran topic kastoo la gelayo midda kale waxay tahay doodihii iyo su-aalihii oo dhan oo nasro lagu jeediyey waxaa loola hadlay inay tahay gender expert inay tahay oo gabadha waxay soo akhrisay book oo nala wadaagtay waxay ahayd buuggii in laga doodo ama qaybihii ay ka hadashay oo ay noo soo bandhigtay oo presentationka ay samaysay in laga dooday ahayd afkaartii buugga ku qornayd nasra in su-aal la weydiiyey ayada ma ahayn marka bal taasna dib ha loo fiiriyo ugu dambeynta wax kastoon ka doodayno ama democracy ha ahaadaan ama liberal ha ahaadaan ama socialism ha ahaadaan ama gender ha ahaadaan ama economics ha ahaadaan ama philosophy ha ahaadaan waxaa loo baahan yahay dadka wax qoraya isku dad ma nihin macnaha meeshay ka imaanaya waa meel ka duwan waa eurocentric
ama waa westi marka aragtidoodu waxay ku salaysan tahay bii'adii iyo deegaankii ay ka yimaadeen iyo dhibkii iyo dheeftii ka jirtay ku salaysan tahay annaga waxaan nahay afrikaan waxaan nahay muslimiin ayaan nahay marka waxaa la rabaa islam centric iyo somali centric iyo afro centric in laga fiiriyo inaan ku salayno annaga afrikaan baan nahay muslimiin aan nahay soomaali baan nahay inaan ku salayno waaqicana inaan ku salayno saas darteed doodaha socda waxaa ka mid ah in awal wax kasta waxaa laga soo qaadan jiray westiga waxaa la dhihi jiray westiga waxay ka horumareen haddaan qaadan annagana horumarayna wixii sax waa noqon waayeen dimuqraadiyada waa la keenay dhaqaalihii waa la keenay socialismka waa la keenay wax kasta waa la keenay waana la horumari la'yahay marka waxaa la rabaa aragti laga faa'iideysanayo wixii ah la soo qaato laakiin bal maxaa naga anfacay in la fiiriyo markale dhammaantiin waa idin mahadcelinaya waa mahadsantihiin aad iyo aad umahadsantahay ustaad maxamed sheekh talooyinka qurux baa nala wadaagtay waa runta buugga descriptionkiisa nasr weyre iyo walaak hadda noo sheegi doontaa nasra soo dhawow waqtiga aad u kooban waxaa jeclaan lahaa su-aalihii lagu weydiiyey dhammaantood inaad ka wada jawaabtid descriptionka buugga iyo qoraagana nala wadaagtid magacyadii maan qoranin laakiin su-aalihii ka yaadsan baan xasuusanahay qofkii ugu horreeyay wuxuu ina weydiiyey ka waran haddii inaga oo rabna inaynu haweenka xaq ka maqan u raadino oo nagu yimaado radical feminism oo radical feminismkana afkaartiisu ay noocyo badan tahay dabcan sidaan ku sheegay fikirku maaha static waa wax dynamica waa wax soconaya wax isbedbedelaya weeyaan qofba dhinac uu ka geli karo waxyaabaha tahay in lagu xisaabtamana way ka mid tahay laakiin anigu waxaan idhaahday fikir markaan soo qaadanayno magacan doona aan u bixina inaynu contextkeena amba bii'ada amba deegaanka innaga aynu ku noolnahay aynu ku salayno oo inaga oo imika awood saarayna amba xoogsiinayna empowermentka ay ka mid tahay inaynu ciribtirno FGM-ka inay haweenku waxbarasho helaan in haweenka aan lagu qasbin guur early marriage qasab inaanu imanin intaas inagoo samaynayna laakiin mustaqbalka wixii kala iman kara dee anigu ururna maihi groupna ma wato taas ciddii hadhow toole iyadu ka dejisanaysa shuruuc amba daraasaynaysa waa mawduuc gaar ah qof kale baa wuxuuna weydiiyey sidee baa laisku waafajin karaa dhaqanka iyo diinta maadaama oo meelo badan oo maxaan ku dhahdayay sidee baa bay feminismka iyo laisku waafajin karaa diinta maadaama oo meelaha qaar ay crash uu imanayo oo waxyaabaha dinka aad ka hadlaysaan amba aad soo jeedinaysaan aanay diinta sida aad u sheegteen aanay ugu jirin anigu sidaan sheegayba mar walba wixii aan samaynayno iminka yani qolyaha jiitay hormaraya in equal payment la helo la maraya in yani sinaanshan in la helo inagu manihin inagu xuquuq asaasiyan u doodaynaa yani qofku inuu waxbarasho helaa waxay la midan tahay inuu neefsado lano waxbarashada inaad isu macneed waa inaad noolaatid haddii aanad waxbarasho helin inaad noolaatid way adag tahay amba waxaad ku noolaanaysaa nolol rafaada markaas wixii fogaansho ah oo dee waxaan ku salaysan garan mayno laakiin waxaan ay tahay inaynu ku salayno wixii inaga iminka ina anfacaya oo ay ka mid tahay yani basic needska inay gabadhu hesho waxyaabaha daruuriyaadka ah amba nolosha fududaynaya amba qofka inuu noolaado hadba u sahlaya qofkii ugu dambeeyay su-aashiina weydiiyey waxay ahayd sidee baan laynooga dhadhicin karaa inay haweenka xuquuq ka maqan tahay maadaama anagoo dhakhaatiira dad kartida le maxaan ku dhahday mansabka bulshada kale ay haweenna soo koriyeen adiga kaalintaad nolosha ka gashay iyo heerkaad gaadhay hooyada yani waxba iskamay kiin gelin waxbana kama garan kartid hooyada waxay la kulantay iyo dhibaatooyinkii soo maray dhakhtar baa tahay sidaan filayo oo kugu qoran contextka way ku imaad ma garanay ma gynecology baa tahay mise other department baa joogta laakiin halkaa markaan ku noqono FGM-ka oo keliya tacajiga haweenka u geystay baa kugu filan inaad wax badan ka ogaatid waxa kugu filan hooyo aan aqoon lahayn oo haddana toban u bada korinaysaa yani waa karti ay haweenka Soomaaliyeed dumarka kala dheeraayeen bay ahayd inay iyagoo saas nolosha ku nool saas ku nool haddana wadan burburin jooga inagoo kale iyo adigoo kale ay ku soo saaraan laakiin hablaheena yaryar amba gabdhaha koritoo la soo kacaya waxaan rabnaa nolol tii ka sahlan kana horumarsan inay ku noolaan karaan xuquuq baa naga maqan marka la leeyahay adigu waa inaanad meel dheer ka diin walaashaa un eeg walaashaa waxaa laga yaabaa inay kuu kacdo salaada hore quraacda kuu samayso ay kuu diyaarso deetana iskuulka ay jirto intaasoo dhan xaq uguma lihid maxaan ku dhahday waxaad xaq ugu leedahay inaad la soo kacdid ood la diyaarisid labadiinaba idinkoo wada socdaad iskuulka iyo waxbarashada u dareertaan
marka taana intaasaan kaga bixi lahaa qofkii u dambeeyay wuxuuna weydiiyey preview baad ka tagtay waa run oo ukaasha wax yar oo kooban ka sheegay gabadhu waa gabadh Mareykan Bailey Hooks baa la yiraahdaa hadda jaamacad Mareykan ku taal wax ka dhigtaa waa dadkii markii feminismka ama theory-ga feminismku ay koraysay kaalinta weyn ka qaatay dhinacyo iyo perspective kala duwan ka eegay buuggu wuxuu ka kooban yahay 130 page waxaanu ka kooban yahay dhowr iyo 12 marka la saaray kay tahay bidabt chapter hadba intii inagii muhiimka ka ahayd baan ka soo qaatay buugguna kale halkan uu ku jira wada akhrin doontaa wada eegi doontaa waxa la daabacadkooda waxa la daabacay 1999 first publication ku soo baxay mar labaad ba haddana mar labaad second edition lagu sameeyay haddana qaldanayn 2014 way taasnaahay aad iyo aad ma santahay Nasra waxaan ka macdin waqtiga qaaliga iyo juhdiga ku bixisay inaad buugna la wadaagtid aad iyo aad ma santahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalaha barnaamijka qayb ka ahaa waqtiga soo horay inay barnaamijka dhageystaan aqoonna kala faa'iidaan waxaan sidoo kale u mahadcelinaa Nawaal Axmed oo ah agaasimaha barnaamijka Baraarug Book Talk oo barnaamijkan soo abaabushay dhamaantiin intaan isku keentay dhamaantiin waxaan rajaynayaa khayr badan waxa barnaamijka idin xiriirinaya aniga Maxamed Cukaash waxa inoo badanaa bishii dambe iyo buug kale hadduu ilaahay idmo insha Allah khayr badan rajaynaa